بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا كجوكتان جمعة وناكسن هدي ما أركيس dadka qaarkii jimco way u gaadhay dadka qaarna ma gaarin adduunka waqtiga macnaheedu waa uu kala dambeeyaa laakiin jimco wanaagsan baan idin leenahay meel walbood adduunyada ka joogtaan ku soo dhawaada oo durka warbaahintiini Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee sara sabaynaya geeska Afrika ciwaankeena waxa weeye biyamaal lafta gareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud intaasaan war idinkaga haynaa laakiin intaynan u gelin saddexdaasi qodob waxaan rabnaa inaan la xansaarno xildhibaan Daahir Amiin Jeesow hadalkiisii oo aad dhageysateen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isagana hadlay waxaa laga hadlayay bacdama 15 May 3 sanadood la soo dhaafay xukunkii Xasan Sheekh Maxamuud bal 3 sanadood حسن شيخ محمود بعدما أولي هرا الله دقاقي هرمر بالجاري دلك عجار بون نقضي حسن وحو شاكتي مله هلي مسدي بعتها لجلي هرتا ما أركيسي وحاتاي هداد معني وحاتاي هدادا شاغن وحادا هين هداد شاغن وحاتاي صوب حيسا حكم كي محمد سياد بري كليجي تليس هالنقضو معني ومد للكود ومد كله الله ظلميو هالسكو تشرشرو بس لكن ما أنت الصومالي وحي قريسا حتى هويه USC da ugu badnaa waxay qirayaan maantay in siyaad barre loo darsaday oo Daahir Amiin Jeesow codkiisa kamid ah wuxuu leeyahay adduunyada maanta 2025 iyadoo la marayo siyaad bar markuu joogay Soomaalida ummadda Soomaaliyeed fursadda ay heshay nidaamka dawliga ah adeega service-ka ah iyo sharafta iyo qabka adduunka hadda wadamada qaar xataa ma ka jiro adduunyada ma laga helayo wuxuu tusaale u soo qaatay daaraan hadda la burburinayo وحسن شيخ محمود وحراشاي wuxuu yiri umada wax ku baran jirtay ama loogu adeegi jiray tusaale dugsi hoose dhexe iyo sare iyo jaamacad lacag la'aan ba Soomaaliya lagu dhigan jiray 7-tamaadkii 8-tamaadkii maanta oo 2025 la marayo la sheegay adduunka inuu horumaray oo dayax la soo taabtay ya adduunka jaamacadaha free maahan dadka oo dhan galay free maahan waxaan u malaynayaa Kenya hadda in dugsiga sare laga dhigay free ma garanayo beesadaada la baxaysa hadaad muwaadin tahay macnaheedu hadda aniga waxaan joogaa Switzerland aan joogaa jaamacadan iska galaya dalaq ma jirto hadda ma fahmaysaa waxaas ha sheegin wadamada adduunka ugu horumarsan waay sida la sheego marka horta ma arkayse adduunyada America dheh meelaha loo soo tahriibo Europe dheh Australia dheh New Zealand dheh waxaa doontid ku sheeg Arab iyo Afrika xagga idhig adduunka horumaray Soomaaliya 7-tameeyadii macnaheedu 1 milyan iyo 500 oo ma arkayse macnaheedu arday oo iskuul aadaysa galabley iyo subaxley fiiri shaatiga hoose dhexe uu kala duwan yahay shaatiga surwaalka kabaha buuga qalinka Soomaaliya soo saaran jirtay ardayga Soomaaliyeed haday gabar tahay iyo hadii wiil u yahay macnaheedu dharka iskuulka uu ku aadayo warshadeena soo saari jiray waa 7-tamaadkii sokorta shaaha aan ku cabayno annaga soo saaran jirnay tareen baan noo shaqeynay maanta tareen ma noo shaqeeya waa maya waayahay qofka dugsi sare ka soo baxaa waxa la dhigi jiray hadii aad rabtidna macallin BB noqo sida Xasan Sheekh dawladdaad u shaqeynaysaa معلم BB باتاي هدي أجورستيدنا أدو دكتور سر كسر بحاي معلم BB وحواي وسيرد هؤلاء جود يجوريين تا أيها جوري كودي جيسا حتى جوريا لسينجري قاركود واقع حمر بلاقيه أجان وجوري شغالات دولة دلسي يعني حقيقة دي للدفري نصيب درد أوكي كورنتو عاصمة انتي كبح دا قبل هذا اللودي تولوينك ودوينك معني ودوينك سيرفيس كنا للكهبين إمالين korontada meel walba ay ku sii socotay biyahan koronto macnaheedu looga dhalinay ninka dawladda u shaqeynaya sida wasaaradda beeraha iyo dhugdhugley free la siin jiray 18 gobol ee Soomaaliya baydhabo meel ay dhahan Bonkay fidinta beeraha tijaabada beeraha Angraria waa taqaanaan ayaa la isugu geeyay 18 region of Somalia
meeshaasaa macnihi seminaar lagu siin jiray wax soo saarka dalka lagu bari jiray baabuurta GMC-yada maraykanka Chevrolet ayaa la siin jiray shidaalkana meel walba kaga shubanaysay dawladda ay bixin jirtay horta ma arkaysa maanta fursadaasi Soomaaliya iskaba dhaafe adduunyadan horu martay kama jirto haddii qofka uu dugsi dibadda hadday noqotana isagoo baasaboor diblomaasiya wata ama service dawladda wato koorso loo soo diray ayaa America si sharaf leh aad uga soo degaysa haddaa Soomaali tahay ama Russia ama Moscow ama Berlin ama Italia ama Norway ama Germany Bonn iyo Frankfurt Masar Iraq Iran meel walba iyo Libya laakiin maantay meeshaasi waana lagu xiraa qaxooti annagoo ah waana la tumaa gabdhaheena waa la kufsadaa waana nala gataa marka nala gatana sharaf daraan ku tahriibnaa haddaan ku dhimanay haddaan ku noolaano horta ma arkayse macnihii servicekii dalka ka jiray ma arkayse xukuumaddii Siyaad Barre maantay hawiye iyagaa qiraaya shalayna waxay lahaayeen ma arkayse Siyaad Barre dalka isagaa macnihii burburiyey horumar ma gaarsiinin keligii talis u ahaa of course keligii talis u ahaa laakiin fiiri hooyooyinkan maanta loo tuugsanayo oo gabadhan burada ku baxday ama cunugan burada ku baxday lugtaan barartay de looma baahnayn in dad loo tuugsado waagii hore dawladda iyadaa maareyn jirtay cunuga la tuuray ama wicil ha noqdo ama xalaal ha noqdo waalidkiisaa ku dhib qabee dawladda meel bay geyn jirtay isagoo generaal uu soo bixi jiray ama wasiir ah ama kabtan ah hadda ma fahmaysaa dalkuu difaaci jiray waddaniyadaba waa kuwii markaasi macnihii college-ka loo xareeyey hadda ma fahmaysaa marka maantay laandheera sheego ama laangaab sheego muslimka oo dhanaa laandheera ah laakiin Soomaalidu qalad bay fahamtay maantay ayaan dhowd waxaan u jeeday fanaan sacad ah wuxuu dhahay waxa la soo saaray isagoo annagoo sacada annagoo habargidir isagoo dhahay xaq haddaa ka tagtid way dhib badan tahay markii dambana markuu xanuunsaday waa ka qoomameynayaa buu yiri maantay qof koob shaah isiinaayo male qof ma arkayse macnihii idaweynayo male xanuunaan la jiifaa waxaan ula jeedaa waxaasoo dhan waxaa dabari jiray dawlad from Ras Kamboni low yacda ilaa Ras Casayr cisbitaalada free bay ahaayeen meesha ugu dhow Talyaaniga way hadda adduunka wadamadan oo dhan caafimaadka lacag waay anigaas hadda kula hadlaaye ma arkaysa anigii qoyskayga 2,000 markay ugu yartaa ayaana laga qaadaa bishii oo dollar ha qofkii ugu yar 300 ama 400 oo dollar u dhiibaa oo hadhowdiina dhakhtarka markaa tagtid fragile-kaaga lagu fiirinayo oo lagu leeyahay fragile-kaagu waa imisa 2,500 wixii ka hooseeya dhakhtarka dawo ka hooseysa kuu soo qoraya waa inaad iska bixisaa si uusan caymiska u dhiibin inkastoo caymiska diinta islaamku culimada ay dhaheen waa xaaraan caymo ilaahay baa leh laakiin waa lagu qasban yahay Yurub markaad joogtid haddii lagu qasbo ku soo dulaysan tahay ribo waa marka si kastoo ay ahaataba yacni fiiri Talyaaniga gobolka geeska gees waa la isku daweyn karaa marka aad joogtid waana gaajal lahaa Soomaal balse laakiin Soomaaliya adoonan dhururuq dhiibin Talyaaniga xataa hadda lacaga dhiibay adoonan dhururuq dhiibin isbitaalka kugu dhow baa isku daweyn jirtay yaa igu beenin kara maanta ka waran dhiig miiratada xamar iyo gobolada way is ogyihiin hal kiniini baa lagu qoraaya markaa tagtid tagitaankaaga waa cashuur dawladda kaa rabta isbitaalaad tagtay isbitaalka warqadda boono uu raba aragtida dhakhtarka baaritaankaaga lacag jiifka dhakhtar sariirta dhakhtar qaliin lacag waxaasoo dhan haddana dawo waxaa lagu soo qorayaa dhakhtarka isaga uu keensaday ama qof uu keensaday iyuu ka kula yahay bas isaga keliya orodaa lagu leeyahy orod dawadaan raadso 2 maalmood iyo 2 habeen markaad Bakaara 13 kilomitir ee xamar ah soo dhamayso suuq bacaad meel walba aad tagto dawadii ma soo helaysid laga yaabo xataa dawo tayala inaysan ahayn dhakhtarkii ku soo noqonay waa soo waayay dhakhtarow hay ana mid ku baaraay sug meela lagu dira dhabala laga siina war uu og yahay meel kale inaadan ka soo helaynin muu ku dhaho baashaan meel kale lagama hele anaa meel ku og waa 2 maalmood lagu daaliyay marka jeesa la qooshay ayaa hadda kaniini laga dhigayaa oo dadka macni la siiyaa dawo la wareejinayo waliga ma aragtay capsule kun shilling capsule dawadii lagu xareyn jiray cool macnihi house oo loogu talagalay in macni qoraxda laga ilaaliyo
وحوي وحلوني وريجيو ما لها كل شلن دو سفري دينا الأفر إيسو قبو سقال إيسو قبو شن إيسو قبو باور قبو هدين رواتشيسو مركا هرتا ما أنت الصومالي وحي قريسا دولة نما شرف يا كرامة إنان لهاي إمارات كان أو قاجعة معني إنان معاونة أدري جرني ADC دا بيدبا واتقانا مسجدي لغا سوق هذي أيها لغو عاون جري إمارات كان هدا أدو جدان نين صوماليا مركا أو ماشاسي سفر كومرو باسبوركي صداي أركان معني ويكسو عراري جنان أسكرت إماراتك هرا لوغو دفن جري بكاس باسبور شرف لوها ciidamo ayaan u diri jirnay sida Amerikaanka anaa booliska adduunka u dhahayo Afrika anaga booliska ahayn haday tahay Angola aan ciidamo u dirnay Tanzania saldhigaan ku lahayn jasiiradeena anaga ciidamo u diri jirnay 120 milyan aan sanka ka barnay waad ogtiin Ethiopia 120 milyan hadda ma fahmaysaa marka macnaheedu Soomaalidu iyada meesha isdhigtay cid kale meesha ma dhigin mana is xukumi karaan maantana iyaga ugu liita adduunyada sanka laga haystaa meel walba Soomaali mi aha kuwi alguleey marka hadii ma arkaysa aqli uu jiro diban ata maantay Daahir Amiin Jeeso muxuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud hormar la gaaray ku leeyahay uu yiri ya xisbiga kacaanka Soomaaliyeed xataa ma gaaro yiri bikaaskaas hormar uu na gaarsiiyay waxbarasho lacag la'aan ah dhar lacag la'aan ah cunto lacag la'aan ah ayaa jirtay ciidan xoogan sharaf iyo karaamo laakiin jabhadda Xasan Sheekh Maxamuud hadda uu magacaabay ya jabhadaasi Soomaaliya kama shaqeynayso yiri midda kale Xasan wuxuu yiri beenta uu sheegayo 2700 ay dooratay uu leeyahay kulaha Ilaahay baan idin ku dhaarinay howlkaad u jeedeen ma 2000 oo qofood fadhiday buu yiri 2000 oo qofood dad yar miya ma howlkii aan u jeednay 200 haday u badan tahay 300 ma ka badnayn 2700 intee ka codeeyeen iyagoo codeynay maxaa noo tusi waayuu yiri ma aragteen may marka waxaan oo dhan waa beena la soo dhisay oo la soo afuufay waayuu yiri marka Xasan Sheekh Maxamuud calanka buluuga ah min lawya Cabdiraas Casayr Raskamboni ayaa madax looga dhigay maantana hadii jabhad uu aastay jabhadiisi inta calanka cagaaran la qaadatay ayuu madaxweyne u yahay 2000 aan uga dhigayna 2000 qofood oo waa idooratay uu leeyahay jabhadiisi ayuu madaxweyne u yahay annaga madaxweyne nooma ahan sidaas uu yiri xildhibaan Daahir Amiin Jeeso Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isagana kabaha la dulmaray qorshihii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku taamay jabhadnimada marka horta jabhadii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay ma arkayse macni ragii ku biirayna xisaab ayaa daba joogta waxaan rabaa isla jabhadaas inaan ka dhamaado intaanan u gelin biyamaal lafta gareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Muqdisho wax la yaab la ka jira shacabka laga qarinayo waa maxay waxaasi dad waxaa jira masaakiin ah annagoo dhana masaakiin ah oo kaamam ku jira dadkii kaamamka ku jiray waxa weeye waa loo imaanaya xukuumadii jabhadda Xasan Sheekh Maxamuud baa u imaanaysa tuutii qaranka iyo astaantii qaranka iyagoo wata askar caasi raraysa weliga ma aragtay adiga askar caasi raraysa weliga ma aragtay caasiya loola imaan waxa la leeyahay raashin baa la idin soo qaybinayaa soo baxa dadku baahi bay beerka ku hayaan waa la baahan yahay hadii lagu dhaho ma arkayse macnaheedu adoo baahan kaalay raashin ba meeshan lagu qaybinayaa ma diidaysaa walaal ma diidaysid shacabkii masaakiinta ahaa waxa weeye waxaana lala soo hadlay gudoomiye kaamleydu waa niman dhib badan sida la sheegay gudoomiye kaamleyda lala soo xiriiray gudoomiye kaamleyda ma sheegayaan dadkay soo bixinayaan marka waxay leeyihiin raashin ayaa la qaybinayaaye caasiyadan fuula dadkii waa la raray raashin say u sugaayeen kaarara lagu dhajiyay dhakab gal inta codee dhakab gal inta codee dhakab gal inta codee dadka aad u jeedeen oo macnaheedu la soo safay doorasho qof iyo cod way isdiiwaan gelinayaan lagu lahaa dad sidaasi loo khasbay loo khiyaanay waay dadkii hadday soo noqdeenba kaarar faaruq ay la yimaadeen waxaana loo sheegay meediyaha uma gudbin kartaan haddii macalinka lugeeyo warkan iyo kaararka la gaarsiy isjira anigaas kula hadlaya kaararka waa layla wadaagay laakiin haddaan soo bandhigo dad baa la laynaya marka si dad aan loo laynin kaararkaasi ma soo bandhigaayo mobilekaygaan ku hayaa marka horta musiibadaasaa dhacday dadkii masaakiintaa sidaasaa loo galay
dadkii masaakiinta ahaa sidaasaa loo galay waxaa la yidhi raashiin baa la idiin qaybinayaa soo baxa intay soo baxeen meeshii caasiye lagu raray meeshii marka la geeyeyna kaarkaasaa lagu dhejiyey waxaa la yidhi muwaadin soo ma tiidaa codee waa codaynaysaa muwaadin waryaa muwaadinnimada maa diidanta adiga marka muwaadin ma ahay maa dhehe laakiin waa muwaadin calooshiisu gooryaanka uu iscunaayo caruurtiisu ay gaajaysan tahay hadda ma fahmaysaa laga yaabo buushka xataa cashuur in laga qaado marka meeshii hunguri uu ka soo doontay gooryaankii oo iscunaaya waxaa la leeyahay waryaa muwaadin ma tiid waryaa adigu ma ajnabi maa tahay may soomaali baan ahay haye codeehe dalka maanta waa la codaynaa isdiiwaan geli okay intaas miyaa dhibka maya masaakiintii iyagoo qandi faaruq ah markii meeshaas ay ka soo laabteen kaar qalalan maanta oo dhanna saf la geliyey lasoo sawirtay oo waa la diiwaan geliye la yidhi haddana shabaabaa meel u taagan shabaabkii waxay leeyihiin iyaguna way soo wacayaan yaa doorashada murtadiinta haddaad tagtaan waa dhimateen shacabkii xaggee u roon marka culimada lugaysa waxay leedahay murtadiintaasi doorashadooda haddaad ka qayb gashaan yaa adinkuna lamid baa tihiin yaa difaacaya shacabkii intana kaalayaa la leeyahay hunguriyaa la idin siinaa waa la khayaani baabuurtan fuula markay tagaanna tii dheerayd baa lagu dhigi marka dadkii lasoo diiwaan geliyey kaamarada lagu qabanaa soomaan shabaabna kaamaraday kasoo arkay idaacadda aw hebel mi ahaa sirdoonkooda meel walbay joogaan murtadiinta u codaysa maano marka horta shacabkii dhibaatadaasay qabaan ha maygana wuxuu dhaha dhilmaayo laba qofood inta isu dhiibto waa dhimashadeeda shacabkii macnihii inta xasan sheekh maxamuud iyo jabhaddiisii iyo jabhadda culimada lugaysa ay isu dhiibaayaan waa dhimashadooda baahina way haysaa shaqana looma hayo macnihii waxba looma hayo ammaanna looma hayo horta dhibkaas ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dadka aad aragteen shacabka soomaaliyeedow oo ma arkaysa way codeeyeen ama waa la diiwaan geliye laleeyahay shacab sidaasi loo galay weeye dhegaystayaal daawadayaal waxaan doonayaa inaan u gudbo biyamaal intaanan u gelin abdicasiis lafta gareen miyaan u galaa mise xasan sheekh maxamuud idinkaa ii sheegi doona biyamaalkaan u galayaa beesha biyamaal ciidamo wixii ka joogay magaalada baydhabo way ka soo baxeen xalay dowladda maryland bay ka tirsanaayeen hubkooday soo urursadeen way gadoodeen guryahooday soo aadeen sababta maxay tahay sababta waxaa weeye waa kuu sheegayaa marka koowaad horta lafta gareen iyo adeerkiisii oo masiirkii statekan hawiye hoosgeeyey dadkan biyaha ka iibin jiray biyamaal sababta baydhabo ay u tageen iyadoo xamar dhowr kilomitir ay u jirta waxaa weeye inay baydhabo ku dad yihiin ku dhib iyo dheef yihiin sidaasay u arkaayeen laakiin iyadoo xataa iri samaalaad tihiin loo gacan haatinayo ayay ka diideen xamar hawiye waxay ogaayeen in biyo ay ka iibiyeen inay dhulkooda usoo socdaan in guryahooda ay ku gubeen tii iyo mid ka daranna inay ku samaynayaan laakiin haddii meeshii ay tageen macnihii nimankii mirifle iyo digil ay qadiyaddii qaadeen wiilkoodana ay ka fujin waayeen ay hawiye hoosgeeyeen statekan taasi way u cuntami weyday sababta kale ee biyamaal uu usoo godooday faahfaahinteeda kalena way imaan doontaa waxaa weeye bishii soonka hadda aynu soo dhaafnay intaan la gaarin 10keed ayaa mushaar ugu dambeysay wax loo tuuraba 6 bilood ka horna ciidanka lacag lama siinin waayahay markii sidaasi loo galay arrintaasi waxaa isku dagaalay oo isku feeray aamiin ma daruur oo balayska taliyaha qaybta balayska macnaheedu gobolka Bay inuu yahay aan rajaynaayo iyo Mukhtaar Dugudow oo taliyaha balayska degmada Baydhabo ah ayaa gacanta isla galay oo isku feeray maxaa yeelay aamiin baa xamar soo aaday qandaraas ayuu soo qaatay 1 sano ah ciidamada mushaarkooda u fiirsaya aamiin ma daruur hadda ka hor xamar ma yimaaday mise ma imaanin idinka iga jawaabay
qandaraaskaasi markuu soo qaatay 2 bilood kaliya lacag siiyay ciidamada balayska state-ka inta kalena waxa weeye meesha uu mariyay adinka hadda weydiiya ciidankii sidaas ay lacag la'aan ku noqdeen 550 askari maba loogu taabaninba oo biimaal ah ama ma arkayse macni iyo wixii isku jira ah ciidanka markay sidaas ay tahay mushaarkaasi la soo qaaday aamin uu soo qaaday waxaa jiray ciidamo kale oo iyaguna balays ah oo gaar u tababaran oo state-kan u lahaa oo la doonaya afgooye iyo dhulkan in lagu shubo ciidankaasi taliya shub ayaa macni aamin u diray waxaa lagu yiri burburi ciidankan halna ka soo reebin ciidankii iyaga ahaa ee la rabay in lambar konton iyo afgooye dhulkan waa kan hadda koor aan idin sheegaynay la rabay in isbaarooyinka dhagaha loogu dhufto nuur xayr iyo ciidankaasi waxa weeye waxaa burburiyay aamin ma daruur gacantiisa lagu burburiyay taliya shub ayaana ma arkayse macnaheedu amarka lahaa hawiye ayaa soo adeegsaday horta ciidankaasi sidaasay u baabi'iyeen qoyskii lafta gareen allore markaa mukhtaar dugudow baydhabo xamar inuu ma arkayse soo aaday baan rajaynayaa si uu u weydiiyo lacagtan halka sano ma arkayse ciidamadan la soo qaaday oo 2 bilood kaliya la siiyey askartii laga soomiyey shilin aan la siinin oo hadda ay ka qadayaan ilaa haddana jawaab haba yaraatee macnaheedu ma uusan helin laakiin macnaheedu mukhtaar dugudow iyo aamin madaruur waa midda ay isku dagaaleen oo isku gacan qaadeen oo isku feereen ciidankan burburintiisi iyo dhaqaalihiisi marka meeshaasi maxaa kaaga cad marka meeshaasi soo kaagama cadda in ciidamada dawladda Maryland si kas ah qoyska lafta gareen iyo shub hawiye iyagoo u shaqeynaya ay burburinayaan ha iloobin tusaalooyin badan baan ku tusaaya quraanka markaad fiirisid waa inaad wax baartaa waa inaad socotaa waa inaad mufakkar noqotaa saas oo kuleeyahay waxaan eegi doonaa talaabooyinkii aan loo bogin lafta gareen iyo shub ay qaadayeen sanadihii ugu dambeeyay maalintay heshiiskii dani markuu shirka golaha wada tashiga uu ka tagay macnaheedu qoys ahaan khayraadka in loo qaybsado xasan qoys ahaan markay ula heshiinayeen heshiiskan taliya shub uu soo qaadayay waxyaabihii ay qaadeen aan ku sheegaa kow meesha la yiraahdo baraawe hawiya ku duulay waxaa ka dagaalamay 80 wiil oo digil aw mirifla ah saraakiishii hogaaminaysay xasan hirkay ayaa ka mid ahaa waxa weeye isla markii waa la casilay ma arkayse waa la qaaday waa la buusay hubkana waa laga dhigay labo xataa in la dilaa la damcay meeshii abaalmarin la siin lahaa degmada xudur gobolka bakool ma arkayse markii wicilo lagu tilmaamay digil aw mirifle way banaan bixeen waxay dhaheen hawiyii masar soo kaxaystay oo 98 inta nagu dilay ma ogolin masaari waxaan la soconnaa annagu Ethiopian on darisnahay oo hadda macnaheedu aan isku macnaheedu dhufays ku jirno gudoomiyii hogaaminaya xudur waxaa la yiraahdaa Cumar Aatu oo macnaheedu kalsooni madaxweyne lafta gareen garab istaagay dawladdiisii Maryland garab istaagay hawiye salbalaar nagu soo duushay way ma ka ogolaanayno xamar waxa laga soo wada yiri isaga iyo dadkiisii lafta gareen iyo ciidamadiisii kababuudka la mariyay rasaasta ayaa hoosta loogu dhigay marqaati wad ka tii macnaheedu abaal markii saasa looga dhigay already macnaheedu dadkan heshiisay galeen markaas in raxweyn la baabi'iyo kow bardaale haddaan u noqono bardaale nabad iyadoo ay ka dhalatay oo ma arkayse macnaheedu 8 qabiil baa degan laysaan baa u badan iyaguna madaxa la isu geliyay waa la kala dilay يعني دجال سكية سي أي إسلايان وين إسلايان إلهي هذا نحبض يسوى يستان أنا ما أقولي إن ليسان لا يسقدروا إسلايان دقلي إمريفلا إنه إسلايان ما أقولي واي محل يسقدر رايا يلا الله وذكروا دول كان بلارن إن لقاها يستضد كان لحظة اللي بيكروا محل كل يسوق جوينايا إلهي بورها كبا إيش على قد داوضي يجنا ناسية يبهرات يجد فدا مدح اللي يسوق لي حبض باكر عليه لكن اسم الله ينين حبضها كرب يردين حريفين واني منكاس البحوة وعاكو صهري ما أركيس جرة يجيدو مدح على يسوق لي جيلد لي الضبرة مدح على يسوق لي وحاصلنا مشغولين بعد مدة ما أركيس إنا أهايين تلي شو بكدم بيجي ما أركيس وحان عيارها نودن وعاكو صهري دجال باو وكذا عي هل كلو يقانو ولا وين إسباردي بالقاضي إسباردي مركل القاضي إذا مضي دجال لما إسبارد قاضي مشاركة لقى جوست مشاركة إنتان لقى جوسنين أفجو يجور ربع إنه يقول دقاقان أو
hirshabeelle iyo galmudug wixii ciidan eritrea lagu soo tababaray digil aw mirifle meesha ay isugu soo urursadeen oy rabaan inay afgooye dekedan qalalan ay xoreeyaan custom digil iyo mirifle meesha uu dhigo koonfurta soomaaliya oo dhan uu meesha ka xukumo xamarna cunaha uu qabto macnihi sida puntland cagaheeda isugu taagtay somaliland iyagoo ku fakaraaya maadaama macnihi magaca dowladnimada lagu dhibaateeyey oo waxba ma tihiin la yidhi hawiye ay dhaheen ciilkaa iyagoo qaba ma dhaqaaqi kartaan baa la yidhi bal waa la kala firdhiyey sarkaalkii firfircoonba soo bax adigu galgaduuda lagu diri meelahaasi si ay ugu dhintaan haddana ma arkayse macnihi wicillaa lagu tilmaamay raxweyn wicillo marka lagu tilmaamay meeshii la rabay in 77 xildhibaan baydhabo ay yimaadaan oo ma arkayse macnihi waa goosanay ama sida puntland oo kale macnihi xiriirkan u jarnay xukuumadda jabhadda xasan sheekh maxamuud iyo hawiye meeshii laga sugaayey aeroboortku ka soo degay wadaniyadda beentuu yidhi beenuu akhriyey 2 maalmood kadibna dadkii oo carcartoodii qaba saamshuutarra iyagoo wata xamaruu ka soo degay waa la yaabay heshiiska markuu macnihi si toosa u dhammaystiraayay ahayd waayahay xildhibaanadii lagu xadgudbay kuwii yidhi guryoodan ugu daadanaynaa weli jaga lagama qaadin uma hadlin ma arkayse farmaajo mareexaan oo wicillo ku tilmaamay weli macnihi jagadii u haayaa ma arkayse macnihi bal walaalkay xildhibaan iga dhiga ka dhacday meesha xisaabta markay meeshaasi joogto haddana taliya shubaa soo baxay wuxuu yidhi ma arkayse raxweyn waa in dhulka hawiye lagu laayaa wixii ciidan ah iyadoo indhooda shantaa la qaaday diyaaradaha la saaray wuxuu yidhi ciddii soo noqotona waa la dili waalidkeedana waa la dili ha ma la soo bixi karo ciidamadii marka la hareereeyey waa la shirqoolay xabadda lagu riday taleefon ayaa loo diray waxaa lagu yidhi warheedhe dadku way isu gurmanayaan murusado dadkiisuu badbaadsan habar gidir sidoo kale abgaal sidoo kale shubow dadkii aa qaaday adaa ka mas-uul ahaa bal iyadoo la dhihi rabo telefoonku badansadayba meeshayaa lagu dubtay raxweyn ma hadal badna qaarkood meeshaa lagu laayay qaarkood noloshaa lagu kaxaystay qaarkood macnihi intay soo bahaysteen bay soo lugeeyeen iyagoo cijiyaha murxay ayay soo galeen xamar ma hadli karaan waayo haddaa hadashaana waa laydin dilaa baa la yidhi waxaa kuu soo haray ma arkayse wallaweyn shalaa u dambaysa waa kuu sheegay ciidanka mushaara laga goostay waxay dhaheen mushaar haddii la goostay waa shaqaynaynaa waa deegaankeenna isbaaradaan diidaynaa gabdhaha iyo hoyooyinka soomaaliyeed meeshaan in lagu dhacaa ma ogolin waddadan annagaa ka mas-uula haddana raashinkaa laga goostay mushaar ka sokow haddana booyadii biyaha ayaa macnihii laga goostay shub baa ka goostay iyo lafta gareen ciidankii markii dambe xeradii intay baldoos u qaateen bay soo dugeen soona gubeen xaafadooday kala aadeen macnaheedu waa maxay salaan iyo kala tagay raxweynay guddoomiyihii degmada baraawe oo macnihii markay yidhaahdeen hawiye diyaarad inta kuma soo degi karto wallaahi waa beentiinii yidhi automatically garbaduubaa loo qabtay xilkaa laga qaaday seed u dhihi kartaa hadda ma fahmaysa war caasimadii aan joogaa macnihii lafta gareenu isku hadlaynayo isagayaaba xirayba iyo taliyashub marka horta macnihii sooyaalkaas markaan fiirino waxay ina tusaayaan iyo hadda ciidankan isdabajooga usoo gadoodaya oo baydhabo hadda biimaal ka soo baxay ciidamadooda iyo ciidankii oo mushaar 6 bilood 8 bilood laga goostay waad aragtaan ciidankan marka mushaar miyaa loo waayay maya maxaa yeelay dabaqyada lagu dhisanaayo xamar xasan sheekh maxamuud 17 biyaano uu dhisanaayo weheliye kan ka soo horjeeda boos koobaad iyo boos labaad lafta gareen baa leh imise milyan baa ku baxaysa waaye maka almukarama dabaqyada aad u jeedaan oo dhismayaashooda hadda socda oo boos koobaad iyo boos labaad ah waa lafta gareen iyo aadan madooba waa lacagahaasi ciidankan xaq uma le miya laguma biili kara miya nairobi kala barow gatay macnihi daarta ugu yar 400 300 500 oo kunu siisanaya ciidankan 200 bay qaadanayaan $150 ma lagu biili kara miya waayahay turkiya moolal bay furteen xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen annagaa og jaamac baana mas-uul uga ah sababta jaamac uu uga adag yahay xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen waa taas marka macnihii lacagahaasi sow statekan ma lahan sow ciidankan laguma biili karo inta lagu biilo lagu xoreeyo siinka dheer ciidamada macnihii la suro ayaa custom laga dhigi karaa dekadaasi qalalan oo xamar ka soo baxda ilaa iyo baabuurta ayaana ku filan mayland looma dawarsan xataa cid kale cashuur ugama baahna intaasaa ka badan oo ku filan waa dekad qalalan waay iyadoon dekada marka iyo baraawa la furin horta walaalayaal biyamaal sidaasaa loo galay horaan kugu sheegay aamiin ma daruur waxaa loogu talagalay in uu burburiyo ma arkayse ciidamada digil aw mirifle
shub baana meesha baydhabo uu jooga waxaan rabaa inaan ma arkayse ustaad wuxuu yiri bar Abu Walid bar Italy dabaqa ka soo horjeeda yaa iska leh adinka soo baaray way waxaan rabaa inaan ma arkayse macnii u gudbo hadda aan kula hadlaayo ciidamo 10 jir ah 12 sano jir ah ayaa la xareeyay oo shub daraad baydhabo intuu tagay u lahaa cid war diidi karta ma leh meeshii la idin diro waa inaad u dirsanaataan waa in aydan warka ka hor imaanin wiilashaasi digil iyo mirifle la ururiyay waxaa hadda taliye looga dhigay nin ay dhahaan Xasan Hirkay oo hadda ka hor shub u buusay taliyihii madaxtooyada Baraawe hawiye 10ka u dhigay jacaylna loogama dhigin taliyaha asluubta waxaa loo dhiibay hadda baydhabo Hirkay ayaa loo dhiibay isaga iyo saraakiil kale waxaa la rabaa ciidankan hadda dhibowga ku jira caruuraha ah oo dhaawac aan qaadi karin oo aqligoodu aan kala goosan marka dhibowga ay ka soo baxaan in ma arkayse Hirkay loo dhiibo iyo saraakiil kale markaas kadib lagu shubo dhulka hawiye oo hadda shabaabka ay soo urursadeen oo u diyaar garooba la yiri ciidamo cusub baa soo socda oo macni aad laysaan Hirkay iyo marka inay meesha ku dhintaan al rabaa sida hadda Cabdulla Isaaq iyo Nakarumba iyo ma arkayse Waarikow macni madaxtooyada baydhabo shub macni ay isku dagaaleen meel kale marka la geyn waayo wala weyn ha ku dhintaano macni banaankan loo keenay oo kale Hirkay marka hadda waxa lagu soo xirageliyay taliyaha asluubta ka dhigay ma hada dhahay taliyaha asluubta baydhaban ku dhiibay darajana waa loo dhiibay kabtana laga dhigay waa ninka shalay la buusay waxa loo socdaa dhibowgaana la sugaaya dhibowga ma aragta dhibowga hadda ciidamada ku jira dhibowgaas la sugaaya marka dhibowgaas ay soo baxaan ciidankan waxa la rabaa Hirkay iyo saraakiishan dhiiga la digilay mirifle in loo dhiibo dhulka hawiye lagu shubo meesha lagu soo laayo marka shaqada loo soo dhiibay waxa weeye in hawiye dhulkan macni loo diyaariyo saraakiisha digil iyo mirifle dhiiga leh la sii laayo ciidanka laga laayo ciidanka la burburiyo meeshaan marka ugu dambaysa taliye shub inuu noqdo madaxweynaha state-kan oo wakiilka uga ah hawiye lafta gareena gudoomiye ku-xigeenka xisbiga tahay xagga u gudub in la dhaho sidaas ay jagooyinka isu dhaafsanayaan marka dhagaystayaal daawadayaal horta biyamaal gadoodkiisi wuu ku saxan yahay waxaan rabaa inaan u gudbo dhagaystayaal daawadayaal dooda way ballaaran tahay dadka ina soo wacayna Janice waan siin doonaa markaan dhameeyo Abdicasiis lafta gareen dhalinyarada digil iyo mirifle u yeeray shalay isaga wacday digil iyo mirifle wacday waa loo tagay xalay miya adiga macni shalay iyo xalay inta u dhaxaysa waa loo tagay waxa lagu yiraahday saaxiib maxaad haysaa maxaad noogu yeertay wuxuu yiri lafta gareen dhalinyaro soo dhawaada anigu madaxweynihiinii aan ahay kacdoon badan baan u jeedaa inaad fududaataan ma ahan dhalinyarada in la iska horkeena macnii ma ahan aniga macnii in la igu degdega ma ahan dhalinyarada ma arkayse in la igu diro ma ahan shaki in la kala geliyo ma ahan ma arkayse macnii aniga haddaan ahay madaxweyne lafta gareen Abdicasiis ma arki karo digil iyo miriflo islaynaya dhibaatay igu tahay ma fiirsan karo marka wuxuu yiri nimayahow waxaan doonayaa in culayska la iga yareeyo hadda lafta gareen aniga inuu idhahay ahayd macalinka lugayow adiga iyo SMC jaamacadda lugaysa culayska iga yareey because ninka sirta qarxiyay aniga waay ninka macnihi xaalad kasta hadduu guul ku taagan yahay hadduu daba dhilif yahay sheegayaan aniga waay moogta annaga waay marka wuxuu ku yiri ma arkaysa macnihi in waxaan u baahanahay culayska la iga yareeyo odayga marka waxaad u malaysaa in kulaylka uu gaaray xaqiiqadii laga sheegay in ma arkaysa ay taabatay dhalinyaradu waxay ku dhaheen madaxweyne dhageyso niyow digil iyo mirifle qadiyadiisi ayaad xambaarsan tahay nin shakhsi oo iska socda ma tiid shalay waa diiday baydhaba aaday haddana 2 maalmood kadib waa soo noqotay xamarna waaba ka dhamaan weyday waa caasimadii Soomaaliya laakiin Xasan Sheekh Maxamuud hoosta waa kaga dhamaan weyday hawiye annagu ma waxaadna leedahay qadiyadii waa soo qaaday hawiyaan hoos keenay ma arkaysa igu raaca iga aamusa igu taageera miyaana leedahay wuxuu ku yiri maya sidaasi ma ahan haye wuxuu yiri niman yahow aniga meelo badan cadaadis macnii culayse dhinacyo badan macnii iga taakaysan waxaan rabaa kaliya 3 bilood inaa isiisaan 3 bilood
معني حسن شيخ محمود waxa uu wada ka yeeli maayo xisbigan beenbeenta ah waan u jilayaa 3 bilood kadibna waxa weeye dhulkan la jaraaya ninka u dhameeynayo oo midida dhabarka ka gelinaya waa aniga dhalinyaradii waxay ku dhaheen saaxiib 3 bilood kuma siin karno waxa ku fujinayo waxa weeye waxaan inaad tooba aad tiraadid waxaan inaad ka dhaxbaxdid annagu dad macnii ku milmaaya hawiye manihin mana ka yarin waa ka badannahay dad qarsoomaya manihin ha banaankaas iskeen digil iyo miriflow dhulkeena aan dhaxsano dheh ha hawiya nagu soo duulay dheh laakiin intaan ku jiraa 3 bilood hal la isiyo aduu soo u tuugtamay markii dambe wuxuu yiri dhalinyaroy 2 bilood kaliya xataa la isiyo 2 bil fursad ii siiya oo yaani xasan sheekh maxamuud anaa soo afjaraaya anaa midida dhabar kaga taagay islaam allah markuu sidaasi leeyahay macnii xasan sheekh maxamuud ka hawiyaha dabaalamiya iyaga macnii marka lafta gareen uu leeyahay aniga 3 bilood u seexseexanaya hawiye mididan dhabarka ka gelinaya ma arkaysa anaa macnii soo afjaraaya nidaamkiisii laakiin waa ku milanahay raxweynay 3 bilood ii aamusa shibdhaha macneedu marka hawiyaha iyagu dabaalamiya زنجلميا معني ما أجميا معني ما أركيس إن سيدا معني وفكري كره لفت جرين وحيكون دهين مدحوين وتعصيل لجاي يلي ماي وح لجاي يلي كره ما أهن وح محن وش يجيسه ولا ليالو وحير أنا أراريب أنا هاي كاركي شات جدود ولا صباحي أرضي شات جدود أنا هاي ما أركيس معني نين هوية ما أركيسه معني هوس إيماناي ما أهي ما أركيسه دول كان كما قرقرت مايو قضية مقدنايو أنت يكرد عضي هوينا ما هوس هي هذا بهوس جوكتاي مرك عادية وحوكوسة أروريي 3 بلاد فرصة هلا إسيو عريس كلا إيجا يرايو حسن أنا أصور دميناي يحس بيسي مرك رحوين هداي تاني سينا إذا 3 بلاد سيدي وحليهي هويه أنا ما هوس إيمانايو سهر إن دير مو فضي أي سود دبتي أو جوجرد ده معنيه أي هوس ده كوسا لبلبتين وعنايا بل هذه وحكي ده أبو أنتر شو عيري واليابي مركا هذا جاني سير إنسان رحوين جاني سيه 3 بلود جاني سيه لفته كرين فيري وحوليه السجو جكده هوية كجرة هوية معني نبر كمديدة كجلينايا 3 بلود جاني سيه رحوين يعني يقول فضلاني النولي مدحتو يدي سنة ورقد لقو مقاليه إياه أقون لي ديل إيه مرفليه إيه حتى هارين كيبو حوليه أي إت وراسلان أهي بح شهادة هذا مش قينيسو أي إت لا يبار أهي بح شهادة هذا مش قينيسو أي إت وحنا هاي ما أركيس معني الدمولي يا كتاي كاي متاي ماي شهادة هذا مش قينيسو هون بان هاي شهادة هذا مش قينيسو هي إيله وركده هشيجن جسار جوده هشيجن جوابين هشيجن هذا ما فهم يسا شنطة على يجلدي حق يسكدي مركا وحنا كلية 6 بلود جاني سيسية ما سينا يسان سيدي يعني اوكي انا سينا يسان وهي sababta marka 3 bilood jaanis la ii siiyay uu yiri aan ku sheegaa ninkan dadku uu sahansaday meel uu ku hubsaday qadiyad been uu ka gaday annagu intaasi macnaheedu heshiisyada markuu galay ka waan ogaa adeerkiisa u soo galay isagana macnaheedu uu ka jeesjeesanay laakiin baasha muddo soo jiitamaysa fiiriya raxweynay lacagihii aan idinku gatay baa wax yar qabi iga dhiman wax yar ii dhiman
وحير intaasi 3 bilood baan ku urursanayaa isugu way marka toosa la idin qabsanaa kadib waxba igama gelinay ma fahmaysaa marka macni dubaha meel xun uu kaga dhacay xaraan hadaa cunta ma ogtahay banaanka ku keenaysaa odayga marka wixii oo macnahi heshiisyadii waxay gateen lacagii oo wax u dhidhiman ayaan fashilinay anaga marka macnaheedu 3 bilood isuga waxa weeye 3 bilood kaliya isuga wixii aan aroosaday marka raxweyntu sangalami ayagu iyagay u taala waaya fiiri wuxuu ku leeyahay shaati guduud ardaydiisaan ahay cadaaladaan ku dhaqaaya hala isugu cadaaladda uu ku dhaqaayo yaa tahay madaxtooyadiisa marka laga yimaado adeerkiisi xibintii digli miriflo ku fadhiyaa asluubta waay isagii madaxweynihii waay صدقي سيدقيسي وأقاسمها مدحتويدا حاسكيسي ومرودة كوبعد دماشي ديسي إن أديرتيسي شب ورنالي عيدا مضى يدا اللو ديبي ساد كود يدا ديبيسي تنكالي ماركي سي تيك توك جاي عرب كسان كلا دا ناقا سان لها يدا أركتي ويدقن حيين قبلها أوفير صدا سوشال ميديا قبر هداي دايسو أما وار لسبيان معني أفيرسو ما دقن وناكسنا marka walaalayaal ma arkaysa macni cadaalada lafta gareen hadda kadib uu soo wado oo digil imriflo uu soo wado maxay tahay ani marka hal mid aan leeyahay raxweynay haddaan is dhageysanayno hal qodob ayaa chance lagu siin karaa lafta gareen qodobkaas waxa weeye haddii macnihi hawiye uu ka soo hoos baxo hadda wali isaga madaxweyne ah baydhabo uu iskeeno uu dhaho xamar xiriirkan u jarnay maamulka jabhadda xasan sheekh maxamed nacalad baa ku degtay fagaaro uu ka yiraahdo raxweynay dhulkeena waa lagu soo duulay intaasi isbaara ayaa taala deegaanadaasi waa in muddadaasi aan ku qabanaa ciidamo aan ku daadidnaa shilin volunteer dhulkeena tiyeeglo waa inaan xoreysanaa afgooyo waa inaan xoreysanaa custom aan dhiganaa sida siciidani laasacaanood markii la xoreynayay uu caday laasacaanood kama gorgortamayno 25 Agoosto waa in la xoreeyaa ma ka gorgortamayna uu yiri oo kale waa inuu firimbiga u yeeriyaa biyamaal hintire digil aw mirifle iyo inta la degan kuna dhawaaqaa uu yiraahdaa ilaa 4 rukun kama gorgortamayno waa dhul digil aw mirifle ah sidaas hadduu ku dagaal galiyo digil iyo mirifle markaasi waxa weeye ninkaasi daahir waaye uu toobad keenay waa dhigi karna laakiin jikadii saare indha yaraan ku jira hala isugo 3 bilood raxweynay isuga dhalinyaro culayska iga qaada macnihi baraha bulshada yaan macnihi yaan layga hor imaanin arrinkaasi anigu ma ku talinaayo in lafta gareen Janice la siiyo haddii Janice aad siinaysaan isagoo hawiye hoosta kaga jira idinkay idin taala su'aal baan weydiinay raxweyn lafta gareen dhalinyaradii xalay uu yeeri wuxuu yiri 3 bilood Janice la siiyo 3 bilood kadib anaa ka taqalusay hawiye xasan sheekh maxamuud iyo nidaamkiisa anaa midi dhabar kaga taagay hadda waa u seexseexanaya raxweynay 3 bilood Janice ma siinaysaan lafta gareen oo macnihi xisbiga jabhadda xasan sheekh maxamuud ku jira adinkaan idin ka rabaa jawaab xasan sheekh maxamuud aan war idin ka hayaa marka xasan isagana xalay toole hawiya la kulmay hawiya u tagay hawiyi way baxeen waxay ku dhaheen xasanow su'aal baan ku weydiinaynaa haye warniyow adigu ninkan lafta gareen ah xisbigaaga ku soo dartay niman kale oo raxweynana waa u boostay sida senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo intaasi kula soo halgamay oo hadama ligsi ah iyo ma arkaysa dadkaasi oo dhan lafta gareena ka dooratay waayahay lafta gareen ma isku haleyn kartaa ninkan ma aamini kartaa wuxuu ku yiri waligay ma aaminayo yiri hawiye u sheegay hawiye tashigay xalaya waligay lafta gareen ma aaminayo yiri iyo raxweyn oo dhan waa ku shaqaysanaya bas waa isku dilaya wuxuu yiri hadda waayahay haddaadan aaminaynin sidee doorashada soo socotaa waa mid dadbane
qofii cod ma ahan adaa hoos noogu sheegay see camal wuxuu ku yiri wallahi billahi kama yeelayo yiri Abdicasiis lafta gareen 77 xildhibaan oo baydhabo ka soo baxaya in uu maamulo iskaba dhaaf in uu ila maamulo xataa kama yeelayo yiri yaa dhahaya Xasan Sheekh Maxamuud 77daasi lafta gareen inuu xataa saameyn ku yeesho yaa wallahi kama yeelayo yiri ama waan dilayaa ama ay meel igu xiran oo kale u ahaanaya hawiye saasuu u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud xalay lafta gareen isagana wuxuu leeyahay dhalinyarada markay u tagtay u yeedhay 3 bilood chance siiya Xasan ana midi dhabar kaga taagay hawiye ana u dhamaynayo jikadii hawiyena uu ku jiraa hadduu u dhamaynayo baydhabo muu tago hadduu u dhamaynayo sida Saciid Cabdullaahi Dani garow uu xidhay Puntland macni Axmed Madoobe Kismaayo u ootay kama dad badna ma u ooto firimbiga muu yeeriyo yaa afka la haysta Axmed Madoobe masaajidu ka istaagay waana lagu soo duulay shirkad waa yiri dawlad ma jirto waa qabiil Saciid Cabdullaahi Dani saasuu yiri lafta gareen isaga la rabay lambarkow inuu bilaabo maxaa yeelay hawiye hore ugu duuleen dhulka Digil iyo Mirifle way dhibaateeyeen dibay u geysteen ninkii la rabay inuu dhawaaqo macnihii 95tiina way nagu soo duuleen 17 September inuu yiraahdo ilaa Dilbakol ilaa Tieglow ilaa Ceelberde ilaa Waajid ilaa Xudur ilaa markayse 20 jirow Saydheelow ilaa Maleel ilaa buur eyle buur haybe siqle iyo dalandale buur helado buur hakaba diinsoor qasax dheere u furow markayse luuq ganaane hoygii boqortooyada baar dheere buura xaawo garbahaarey doolow markayse jilib iyo jamaame intii ilaa jeelow jiirkuulow markayse daafeed markayse ilaa macni raamukuulow ilaa baraawe ilaa afgooye ilaa kutuwaare iyo sablaale iyo xaawaay marka iyo baraawe ilaa ceelhuur jasiira ilaa lambar 4 macni carbiska kaydkii Digil iyo Mirifle jabhadii SDM nimanka belele qaystay waa hawiye waa inaan iska dhicinaa raxweyney yaa laga sugaayay ilaahay xil ima dhiibo ka badan kan hadda aan hayo low aan macni xil aan hayn lahaa aanba ku dhintay firimbiga wallahi waa yeerin lahaa ilaahu may dambaabirta u duusho sidii watakunul jibaali kal ihnil manfuushi quraanka uu ku sheegay watakunul jibaalu kal ihnil manfuushi buuraha sidii suufka u duulay hadday u duulayaan waxaan dhilaa gala dagaalka last bullet ilaa xabada kan ugu dambeeya gabarnaysan naga harin Soomaali waxaan wax la qaybsan lahaa villa Soomaali aan isku arki lahayn hawiye maalinta macni taaka kamida dhulka Digil iyo Mirifle macni laga waayo kaarna ay ku soo galaan sida dadkeenu marka macni dhulkooda ay tagaan ay kaar u siiyaan kan baxaaya iyo kan soo galaa ay u xisaabiyaan sidaas samayn laha wallahi billahi ta'ala haba la igu dilay hadda ma fahmaysaa marka raggu macni kulayl baa lagu dhalay foosha way kulushahay macni qof hooyadiisu markay dhalaysay macni ay qabow ku dhashay ma jiro wariyaa rag kulayl buu ku dhashay kulayl baa ka celiyade waxaan ula jeedaa macni haddii faataxa ay ku baxayaan salbalaar 17 September bay ku soo duushay macni dhulkan hadda aan tiriyay ee Mayland 6 gobol ee wabiyada ilaahay baan kugu dhaarshay aydid kitaaba loo geeyay shaati guduuda u tagay cid walba u tagtay markii hore walaalow macni deegaankeen habeenimo anagoo hurdayna kaadi qabkaan ugu qabatay naga baxaa la yiri wuu diiday nag laakiin markii dambe muxuu kaga soo baxay maar baa dabada laga soo geliyay isagoo ooliyo burshaato marsan haabare ya markayse waati macni dhuun dhishika isagoo ku dhagan dhabarka xabada lagaga soo siiyay hatta jidka toosan uu soo mari waay wareer macni xabada wareerkay ku riday wuxuu dhuumasho ku soo maray jidkan dugul lama taqaana oo marka kor ka soo galay xamar meeshaas ka soo galay reer hilowlana way qabteen suuq boocle qortay ka gooyeen marka waxaan rabaa inaan runta u noolaatid waaqacana aad u noolaatid laakiin waa seexanaya hadal malihi ukun ahaan u baaburin u yiri kusoo kutuwaarey waxaan horey uga haysan abwaanada ukunaha afmaleh ukunahan u baaburun inuu dadku ku dhaqo raba u baaburun shit hawshiina wata islaantiisi na kala nama guursan kare ana wax yar roon inkastoo naagtayda iga adag tahay fiiri daacadaanahay dadku wuxuu ku siraa daacadaanahay hantida dadkan ilaaliya laamiye la dhisay kaliya ma ahan dad laguma hogaamiyo dadka leadership ay u baahan yihiin dhoola tuso ay waxaan fiiri imaaraadka looga soo adeegaa baatiga aroosyada ku aadaan
ama weekendiga ay xidhaan waxaasi marka dadkana waxaad u sheegay ma arkaysa macnihii dabaqyana waa dhisane lafta gareen waxaa beerka uu go-ay markaan sheegnay in xasan sheekh maxamuud 17 dabaq uu dhistay isagana kiisa uu kasoo horjeedo oo hadda dhismihiisa 12 uu yahay oo 12 dabaq oo apartmentadii lagu kireynayo $800 waaya macnihii Maka al-Mukarrama haddana hal boos kale ma gato boos koobaad iyo boos labaad ayuu isku goostaa boos koobaad iyo boos labaad isku go-an daraadan ku sheegay wiil wacaysla ah ayaa ma arkaysa Cabdibile qaatay oo taliya waaxeed waa bari ah gurigan dhismihiisi baadan ka rabaa buu yiri Maka al-Mukarrama yaa igu beeni kara gudoomiyaha degmada waa bari waa nin raxweyna oo digil iyo mirifla ah kiya wuxuu telefoon u diray wiilkii wacaysla ahaa wuxuu ku yiri wariyaa soo gal anaa ku baahan ma soo galaayuu yiri okay anaa ku imaan doona kii wacaysle gaari kale oo Cabdibile dalbaday laba isagoo ah markaasuu marka gudoomiyii waa bari wuxuu telefoon u diray aadan madoobe wuxuu ku yiri aadan madoobow warniyow ninkaasi gurigii lafta gareen ayuu baad ka rabaa dhismihii wuu joojiyay la hadal lafta aadan madoobe marka xasan sheekh la hadlay mudana madaxweyne wiilkaasi adeerka u tahay miidkiisa ma ku keenaa mise ma arkaysa waa gabanaysaa gurigii madaxweyne lafta gareen uu baad ka rabaa lafta xasan sheekh maxamuud telefoon uu qabsaday maslaxuu la hadlay wiilkiisa taliyaha madaxtooyada ah wuxuu yiri ninkaasi xabsiga geli maslaxa telefoon u diray kii wacayslaha labada Cabdibile kaala yaalay madaxtooyada la soo geliyay hubka dhiga baa la yiri bas daadiya hubka tuutana siiba xabsiga ay ku jiraan ilaa hadda ya igu beenin kara waxaana dhan dadka ma ogeyn marka adigu ciidankii raashinka waa ka goyne biyaha waa ka goyne oo digil iyo mirifle xoreynay oo mushaarka ka goyne 4 bilood 6 bilood 8 bilood ma qaadanin ee mushaar sidoo kalena ma arkaysa macnii dabaqyadaadana waxay iska soo horjeedaan xasan sheekh maxamuud oo malaayiin lagu dhisaayo haddana saasoy tahay waxaa digil iyo mirifle intaad ninkii sharafta lahaa halgamaaga garoonkii loogu magac daray shaati guduud aad hor istaagtaan leedahay allow maweelaana allow beenta allow wadaniyada beenta allow ilaahay wuu jiraa laakiin been baa sheegaysa kaama saarayso daacad ma tihid annagaa ku soo baarnay annaguna kaa gamban mayna kaa xishoon mayno marka kursigan waa ka degaysaa 3 bilood ma ahane 3 sano si hadaa rabtiin raxweynay laakiin lafta gareen waxaa kaliya furaaya waxaa weeye in uu shaati guduudii shalay beenta uu idinku sheegay airportka uu soo istaago uu yiraahdo raxweynay gala dagaalka annaga iyo hawiye maslaxadna ma dhex taalo jeero dhulkeena ay baneeyaan kama wada hadlayno 34 sanaan fiirsanay finito la musica wariyaa nuur xayir ayuu ku hayaa afgooye oo baabuurta ilaa Ethiopia aadaysa ilaa iyo amuma iyo kudaa aadaysa macnaa cashuurta isaga uga soo qaada way kala goostaan taliyo shub iyo xasan dhicisow nimay dhahaan oo abgaal ah oo ma arkaysa hadda dagaal aan hurina dhahay oo abgaal oo hartay abgaal ah iyo waxa kala goosta macnaa siyaasiyiinta hawiye wariyaa ayaa kala goostay xasan sheekh maxamuud iyo waxaan dhilaa nuur xayir oo cunugii xasan sheekh maxamuud aan garanayno oo sacado reer jalaf ah ayuu meesha ku hayaa lafta gareen markaasa macnii wuxuu soo diraa taliyo been ah wallahi billahi markaan isbaaro ma la dhigo la dilayaa dhoolatus idaacadda hawshana way socotaa ha socoto yaad siraysaa wariyaa fiiri kaama degayno kaamana hari doono kuwii adiga ka afqarisnaa kuwii adiga siyaasadda ka wariyaa yaa annaga siyaasadna baraysaa soo ma ogid annagu meeshaan ma fataatiir baan ku haynaa haddaan nahay jaamacadda SMC lafta gareenow oo inaan siyaasad meeshaan jaamacad siyaasadeed inay tahay ma ogid oo in macnihii dadka siyaasadda bartaa ama siyaasiyiinta inay meeshaan wax ka bartaan maba ogid miya hadiyaa ka caqli badan tahay oo annagu macnihii ma dad shacabaan nahay bay kula tahay haddaan ku warramaynaa annaga meeshaan siyaasadaan dadka ku barnaa jaamacad waaye meeshaan xataa dugsi hoose siyaasadeed maahan dugsi dhexe maahan dugsi sare maahan jaamacad waaye facultiyaan dhiibnaa facultiga daaroodkaan inta ka bixinaa siyaasadda facultiga dirtaan inta ka dhiibnaa facultiga danwadaagaan inta ka dhiibnaa facultiga digil iyo miriflan ka dhiibnaa facultiga hawiyaan inta ka dhiibnaa qof walba facultiga uu rabana meeshaan macnihii waa ka barnaa tii Trump iyo Washington waa ka bixinaa ogow iyo carabaha diracyada weyn iyo kuwa toosan
marka adigu cidaa siri kartid ma lahan meeshaan jaamacad waay haddaad u malaysid inaan meeshaan macnihii waqti aan isaga dhumin ama markaan soo dheragno energy inaan ku baabi'ino no United Nations Security Council golaha ammaanka ee qaramada midoobay draftiga intaysan soo saarin shirka albaabada u xiran yahay markay galaan inta aysan ku dhawaaqinaan ognahay annaga adiga ma ogid markaas anaa ku dhahaay meeshaan marka waa jaamacad waay kama caqli badnid malaayiinta Maryland kama siyaasad badnid mana siri kartid hadda kadib meeshaan waxaa ka warrama labeenta Soomaaliyeed oo daarood leh oo hawiye leh oo dir leh oo digla oo mirfle leh oo dan wadaag leh ayaa ka warrama ma iyo maxaa hadda ma fahmaysaa meeshaan waxaa ka warrama Sayid Cabdiraxmaan aqoonyahanada Soomaaliyeed aqoonyahan Muxsin Xabiiba ka hadla dadka dad saalan maahan waa dadkii siyaad bar la soo shaqaystay waa Cornel Sharif oo sirdoonka Soomaaliya soo haystaa jooga oo ilaa Djibouti xurnimada ayaa ka warramay siyaasadda niyow nadiif qaran Yusuf miskiinad meelaas ordaysaad u malaysaa meela ay ku xirayeen annaga og dadka qaarkood Sheekh Maxamuud ayaa ka warrama meeshan waaye arago ilaa Garowe macnii sarkaal aha soo shaqeeyay dadka meeshan ka warramayo waa dad labeenta Soomaaliyeed waay shamsadeena ka warramaysa dadkan dad macnii iska warrama ma ahan Hindo Cusubla ka warramaysa Fartuun Malaaqa ka warramaysa Fartuun Ibraahina ka warramaysa Raxme Aadana ka warramaysa meeshan waxaa ka warramay Maxamuud Faaraxa ka warramay meeshan waxaa ka warramay Maamo Shufa maamada Lugaysa ka warramaysa macnii meeshan waa meel lagu baandheeyo siyaasadda waay jugjug meeshaada jooga ka warramay dadkan aad u jeedid qaarkood saraakiil waay qaarkood dharcad waay qaarkood macnii bangiyay ka shaqeeyaan qaarkood dawladay u shaqeeyaan marka adiga kama ogid waxaad sheegaysid kama ogid hadda ma fahmaysaa marka beenta iska yaree lafta gareen meeshan jaamacad waaye haddii aad toosan tahayna cirkaasaa lagu geynayaa haddii aad dhulka macnihii ummadda aad gelinaysidna waa lagaa hor imaanaya runtaa lagu sheegaya niyow waxaan rabaa lafta gareen wuxuu ku soo dayriyey 3 bilood jaanis hala isiiyo hawiye anaa u dhamaynaaye anoo jikadooda ku jira kulaha siya 3 bilood siya waa siinaysaa waa ogahay siya Sheekh Qaasim Sheekh Saalax lama hilmaami karo waayahay dhagaystayaal daawadayaal waxaan doonayaa inaan stuudiyaha ku soo dhaweeyo sida xaq macni loo kala leeyahay dadka idaacaddan soo wacay markaan doodii baa inoo furmi doonta marka dadka adiga ma aadan adoonsan kamana caqli badnid lafta gareen waa lala warramaya walaal baa qadka ku jira jamco wanaagsan salaamullaahi calaykum salaam soo dhawow ma arkayse barnaamijka waad joogtaa maxaa ku daraysaa ma arkayse macni jabhadda xamar macni lagu dhawaaqay jabhadda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay lafta gareen uu ku biiray hadda wallahi arintaasi waa ka gaabsanayaa waxba kama dhahayo jabhado iyo xag maxay ahayd siyaasiyiin laakiinse waxaa ka hadlayaa ciidanka mushaarka la leeyahay waa loo waayay baa wax yar ka dhigi lahaa haye isdaba dhigo insha Allah soo dhow siyaasiyiinta meeshaan ka dhigtay ganacsi ay leeyihiin oo kale siyaasi kasta markuu meeshaan imaado hal wax bay iskaga daysanayaan midaas oo ah ilihii dhaqaalaha in wadanka laga fadhiisto ilihii dhaqaalaha markii wadanka laga fadhiisto ummadii oo dhan baahi ayay u dhimanaysaa ganacsiga horta wuxuu ku fiican yahay sharaf ku leeyahay adiga waa sheegtay tartankii hadduunan meesha unan joogin ummad hore u soconaysa ma jirto sababtoo ah wax soo saarkii fikradihii innovationkii meesha way ka wada tageen taas marka lagu gartay siyaasi kasta markuu fadhiisanayo ilihii dhaqaalihiina waa isaga afka ku shubanayo yaana lala yaabin markuu dhahayo mushaar ciidanka looma hayo ciidanka mushaarkiisa halkee laga keenaa canshuurtii shacabkiina xageeba ka keeni lahaayeen lacagtaas ku wareegaysan lahayd ayaka xaq ee u lahaan lahaayeen qandaraasyada qaar inay qaataan taasina miyaa dhacaysaa waa maya lacagtii tunkaa la wada saaranaya Kenya iyo wadamo kale baa la maalgashanaya dhalinyaradii qof maalgashanaya ma laha shirkado dad shaqaalaysiya wax laga sameynayo meesha ma laha macala shirkadihii waaweynaayo wadanka joogay baa hadee shaqaalaysiinayaan ummad ajnabi shaqaalaysiinayo dhahaya raqiis baa ku helaynaa ajnabigaas ay dhahayaan raqiis baa ku helaynaa lacagta ay kama siiyaan Soomaalidii bay ka soo qaadayaan
hadda Puntland oo kale ciidankeedii waxa loo weysan yahay baa la sheegayay mushaar laakiinse maalin dhaweyd waxa la maqlayay qofka eed sheeganayo dhahaya qandaraasyadii dekada lagu dhisayay dani baa qaatay dukaamadii laga soo gaday biraha iyo shamiitada dani walaalkiis baa la siiyay sanad ka hor miyaa mise bilo ka hor dani baa maxay ahayd naagtiisa wuxuu u xiray caanihii boosaas oo dhan inay maxay ahayd ayada iibiso taas waxaa kasii horeysay gas inuu dekadii boosaaso 30 milyan uu siisto 30 milyanna Soomaali maxay ahayd shacabkii laga soo dhalinayay qandaraasyadaan la qaadanayo siyaasi kasta uu qaadanayo wadooyinkan baa tusaale hal mar uga soo qaadaya yar haddeertan Saciidani baa dhismihii qaadanaya dhismahaas waxa loogu talagalay shirkadaha dhismooyinka inay meesha imaadaan tartan ku galaan tartankaas la yiraahdo yaa u leh experience inay wadooyin kasaan dhisaan anaka u leh oo khibrad u leh oo saan wadadan soo jeexnay bundadan soo dhisnay haye misha lacagta waa intaan okay ininka raqiisan haye waqtiga hal lagu tartamo yaa waqtiga maxay ahayd boobsiiska badan ku dhisaya ayadoo tayo leh taasi ma jirto shirkadahaasna dhalinyaradii bay khibradahaasi barayeen wadamo shisheeye u dirayeen khibradaha soo barayeen oo shaqaale ahaan u haysanayeen sababta waa shirkado isku huba inay qandaraasyadaas heli doonaan laakiin qandaraasyadaasi markuu siyaasi asaga meesha xilka fadhiya jeebka hadduu ku shubto ajaanibna banaanka ka keensado wax lagu naanaasho korka u malaysa inay ka dhisan tahay hoostana ka qormay birita ka maalina qof lagala xisaabtamo lahayn oo lacagtii tunka la sii saaranayo lala tegayo waa waxa wadanka la degay tartanka waa in la furaa waa in qandaraasyada la furaa ummadda si daahfuran ugu tartantaa ilaha dhaqaalaha ummadda laga fariisanayana hala joojiyo sababtoo ah markii siyaasi kasta meesha uu imaado 10kiisa ilmood 8diisa ilmood uu meesha u fariisiyo saasay ku sii socoto ummadii kala la dilaya maskaxiyana loo dilay aqli ahaana loo dilay fikradihii lagala dagaalamay ganacsigii laga dilay haba noqotaba maxay dadkan wax samaysanaya hadii ahaayeen dad bisil oo khibrado soo kordhinaya maya lacagtaasi waxna kuma soo kordhinayaan fikrado cusubna kuma keenayaan markay ugu fiican yihiin wadanka ka dhaxoonayaan markay ugu daran yihiinna tunka la saartay waa la tagay marka shacabka waxa loo baahan yahay wacyigelin iyo inay isku sheegaan xaqooda wuxuu yahayna inay ogaadaan sida siyaasiyiintan xaraanta cunaya askartii dhimanaysan mushaarka u weynaya loola xisaabtamo intaas waa uga baxadaan su'aal intaas topicaas aadan ka qabin way su'aashan ku qabaa waxay tahay xisbiga hal xisbi ma anfici kara Soomaaliya ra'yigaaga Xasan Sheekh Maxamuud xisbi hal xabuu sameeyay Soomaaliya ma anfici kara hal xisbi taasi waa dimuqraadinimo aniga waxay ugu filan 30 sano la soo dhaafayay horta waxa ka arkay aniga maalinta maanta waxa aaminsanahay kaligistalis sida siyaad barro kale aniga waxa kamid ahaa dadkii siyaad barre oo adduunka ka tirtiri gaaray sababta uu wahay baa kamid ahaa dadkii u xirnaa uu dili gaaray laakiin Soomaalida maanta hadii waqtigii ku laaban lahaa waxa dhihi lahaa war aniga ayaan bahata dhalane dil qof kastana dil culimadaas waxa ka soo fakaday caways baa kamid ahaa dil sabab waa la tuuray kaligistalisnimo lagu tuuray laakiin mid kasto meesha imaaday maxay ka wada midaysan yihiin in shacabkan tuuba lagu muto dhiigoodana la jiqo Puntland baa Allah ka dhigay kulli Allah ka dhigay Xasan haduu ahaan lahaa qof ummadda wax taraya kaligistalisnimo waa ku raaci lahaa laakiin sama jirto dimuqraadinimo la aadayaa waa la sheegayaa dimuqraadinimada hadaad aadid Soomaaliyadan isbahaysanaysa midka kale hoosta uga qoslay shacabkina la isku laynayo meeshaan ma wada qabsanayaan maxaa xal ah aniga uma jeedo rajo xumoon baa meeshaan uga jeedaa way marka waxaad aaminsan tahay hal xisbi waa kaligi talisnimaad aaminsan tahay ma ahan dimuqraadi ma aha laakiin dimuqraadinimada hadii la aadana maxaa lagu haylaya wadamo waxa jira kaligistalisnimo haysta laakiin shacabkii wax la tarayo kan waxa weeye haddeertaanba sida loo jeedo dimuqraadi baa la haystaa waa 30 sano waa la soo haystay federaal baa lagu joogay bal ii sheeg maamul maanta kamid ah oo dhisay isbitaal la mid ah midkii Traore oo dhisay miyaad tusi kartaa
qasriyada degan yihiin waddanka ka maamulaan hataa Soomaaliya hal wado taya leh balitusa oo la dhisay waxaa leedahay shacabka haddii la hogaamiyo si daacad loo noqdo iyaga xataa wax dhisan karaan leedahay oo isbitaal ay dhisan karaan infrastructure ay dhisan karaan marka laakiin niman qoyskooda kaliya dhaqaalo ururinayo waa maamul iyo nidaam ma ramaan kuwa Soomaaliya hadarti boqortooyo noqo laakiin se shacabkan bal wax gali shacab wax galaya meeshaan kuma jiro dadka ugu liita oo dulmiga ugu badan uu maanta qabana waa laf dhabartii waddanka yaa weey waa reer miyigi intaas oo milyan boqolkaas milyan oo xayawaan oo sanad kasta la dhoofinayo canshuurta dekadaha looga qaado bal itusi reer miyi la maalgeliyay oo fustooyin water towers meel looga dhisay xayawaankooda wax ka cabaan dhir loo beeray miyaad itusi kartaa waa maya dhulkiibaaba sii sumaysmaya oo la nadiifinaan lafdhabartii lagu taagan yahayna waa xayawaankii balu fiiri waa qof laantii uu ku fadhiyay goynaya hataa dadkan aqligooda ma soo galayso bal dadkaana wax gelino adduunyadana beeralayda iyo xoololayda waa la maalgeliyaa cashuur dhaafaana loo sameeyaa aad iyo aad dhulkana waa loo ilaaliyaa taleefankan lagu hadlayo sunbaa ku jirta sumanka qaar haddii markuu nacdid iskama tuuri kartid waa in warshad qashinka la geeyaa laakiin dhulkaa lagu tuurayaa godad waaweyn baa la qodayaa godadkii waaweyn dadka beeraha qoda iyo xoololaydaaba la caynayaabe waxaa leeyahy idinku beer qodata beeraha noo qodaanaaba la yidhaha meeshii la maalgelin lahaa adduunyada Maraykanka iyo waddamada horumaray hadda qaxootiga aan ku nahay beeralayda iyo xoololayda ugu sharaf badan waa la maalgeliyaa waxa iga yaabshay ummadda horta waxa u baahan tahay wacyigelin tusaale ahaan hadda Maraykanka aniga joogo nimanka waagii hore way diidi jireen inay dukaanka aadaan geedka lagu adeegtay ay jiidaan waxay dhihi jireen dumarka loogu talagalay marka maxaa loo bedelay aqligoodii maskaxdii waxa looga bedelay isla dukaamadii waxay soo kireysteen niman si fiican u labisan oo respectful suudad qaba baa waxa iska dhigayaan inay dukaanka adeeganayaan gaarigii bay jiidayaan saas bay nimankii waxay ku dareemeen gaarigan la jiidayo inay normal tahay dadkii la soo kireystay waxay ahaayeen dad lacag la soo siiyay oo la rabay in fikradaha looga dugo ayakii waxay faa'iideen nimankiina inay suuqa ka adeegan karaan lacagna ay soo gali karto jaahilnimadiina waa laga saaray marka Soomaalidii marka la leeyahay tumaalnimadii wax xun loo ekaysiyo maxaa dhacaya birihii Ethiopia kuranaysa tumaalnimadii khibradiina ayaka la wareegaya lacagihiina ayaka ka qaadanay intii adiga ay ku gali lahayd gaalkacyo nin baa tagay wuxuu sameeyay company dadka musqulaha ka nadiifiya iyo agagaarkaasi magac baa loo bixiyay reer Harwalwal miyaa wax saas uu ka tagay meeshii waa kana maalinta maanta maxay ka faa'iideen markuu roobka dooxaadkii baa meel kasta u fadhiya marka waxa loo baahan yahay dawladda inay horta waxyaalaha qaar sidii shaqada kale qofka lagu caayinayo in la mamnuuco oo dadka lagu xiro in dadkan la dareensiiyo shaqada nooca rabtaba ha ahaatee sharaf balaada dawladdana waa inay kabtaa sababtoo shaqooyinka ugu hooseeya horta waa inay ahaadaan kuwa ugu lacagta badan dawladdana waa inay kabtaa sida qashinka oo kale nadaafadda kuwa wadada iyo magaalada nadiifinaya kuwa beeraha qodaya kuwaasoo dhan horta waa in sharaftee mudan yihiin loola dhaqmaa taasi haddeenan dhaceen soo maaha maskixiyan baan waa waxa haddeertana u jeedi lagu leeyahay cambahan $4 weeye masar ba hadda waddanka aan joogo qofka warshad ka shaqeynaya iyo qofka qashinka qaadaya waxaa lacag badan qofka qashinka qaadaya aad iyo aad waa inuu qofka dareemaa xushmad ahaan hadda dadkeena sida maskaxda looga qabsanayo waxaa la rabaa in la dareensiiyo qudaartii waddankooda inay mid xun ay tahay qudaarta lasoo dhoofiyo oo webigaas sumaysan oo Nile-kaayo Masar maraya laga keenana inay tahay mid fiican bal u fiirso qudaarta waddankeena ka baxdo waa pristine haddii la geeyo Europe iyo meelahaasoo dhan si aanan inaba caadi ahayn baa loo dafayaa beec qaaliya marka maxay rabaan inay sameeyaan midaan quruntayoo Masarna in meesha la keeno oo ininkina laga iibiyo midiinina hadday qaataan in ay ka qaali wadamada shisheeye uga soo gadaan
laakiinse dadkii baa waxaa loo soo marayaa ganacsato rabta inay maskaxdii ka nadiifiso marka waxyaalahan oo kale markay dhacayaan waxa koowaad oo loo baahan yahay waxa weeye dadka in jahliga laga saaro sababa dadka jahliga looga saari karaa waa waxbarashadii miyaa la maalgashadaa ninba tunka markasta ku sita lacagtii la sii tagaya say jahilnimada dadka looga saara waa run warshadaha aad baa maxay ahayd in loo maalgeliyo marka intaanoo dhan waa in dadka caqligooda la kordhiyaa haddii saas aynan dhacayna waxyaalaha qaar oo la keenaya dhalinyaradoo dhan horta waa in laga wada dhigaa wada military dowladdan ay ku qortaa ayaa tidhaahdaa haye militaryna waa tahay shaqadanna waa qabanaysaa mushahaar siyaadaa ku silaada qabo markaas waxa soo baxaya jiilalka soo socda shaqadii aanan ka faaneyn sababtaa markay ogyihiin qof kastoo shaqada haya inuu military yahay raafal ahaan baana shaqadii loogu kala dooray qof kastaa xushmaanaya waddooyinka sida loo dhiso in ayaka lagu baro waa maxay ahayd dhaqan celin iyo maxay ahayd dib maskaxda dib u dhisida in saas la sameeyo haddii aadan saas samayn karin wax kasta waddanka 4.5 baa lagu kala qaybsaday qabiil kasta shaqooyinka hoose intii qaban lahayd iska soo saara sidii loogu wada sinaado qofna uunan maxay ahayd u malaynayn inuu action meesha u jooga must ay tahay marka dhowrkaas fikradood baa aniga ka qabay laakiinse shacabka laftirkooda waa inay bartaan sida loo xisaabtamo siyaasiyiinta loola xisaabtamo xaqoodana usoo dhacsadaan su-aal kale miyaa ii wadaa mise waa bas aad iyo aad buu umahadsan yahay walaalka isaga ah ma arkaysa barnaamijka martida inoogu ahaa fikrad macnihii aad u saliim ah shacabkan burburay caawin karta ayaa ma arkaysa meeshaan uu kusoo bandhigay uu mahadsan yahay 100% jimco wanaagsan meel walba adduunyada ka joogtaan simad 22 arday baa waxa la yiri jaamacadda xasan sheekh maxamuud xamar ku leeyahay imtixaan bay qisheen baa la yiri kadibna imtixaanka markay qisheen waxa la yiri iskuulka oo dhan macnii muddo sanad dib aad u dhacdeen jaamacadda su'aasha isweydiinta la waxa weeye haddii ardayga uu maado qisho maadooyinkii kale ee uu ku soo baasay uusan qishin ma wuxuu xaq u yeelanayaa in sanad ayaa dib u dhacday la dhaho mise in la yiraahdo warniyow maadadan aad qishtay kaliya ku celi hadda muxuu mudan yahay laba tiri ma arkay sidaan sidee nagu qabatay war kulligiina ofaatiina leeyahay maba dhigan kartaan jaamacadaasna waa midda ugu lacag badan sida la sheegay ee ma arkayse lagu dhigtaa sababtana waxa weeye kamana tayo fiicna jaamacadaha kale laakiin dadkiya waxay u malaynayaan haddii caadiga 500 lagu dhigto simad waa 1000 semesterka marka waxay u malaynayaan haddii jaamacadan ay ka baxdid dawladda shaqo ka helaysa maxaa yeelay madaxdii dawladda ayay ku tiirsan tahay ganacsiga noocaana rasuulka waa uu ka digay haddii aan khaldanayn marka waxa isweydiin mudan haddii ka waran simad adoo dhiganay xasan sheekh iyo tiimkiisa dambiilayaal laga dhigo meesha laga qaado walaal baa qadka ku jira walaalkay hadal ma ku jira lafta gareen 3 bilood fursad hal isii yiri hawi ana u dhameynaaye balka waran ma la siin karaa maxay kula tahay ما horta ustaad waa kula socday ma sha Allah horta lafta gareen waxaan leeyahay horta fursad lama siin kara waayo waxaan fursad lagu siinayn hadda waa ka soo noqday haduu dhaxtaa laga aqbali maayo ilaa oo caasimadda mise dawlad maamulkan meesha ka tariya xasan sheekh maxamuud inuu xuduudda u jara laga yeeli maayo go'aan sida Axmed Madow kala haduu noqday sida Dani oo kale inta macquul markaas waa ku daba feelaynaa laakiin si kala lagu daba feeli maayo midda kalena maamulka Koonfur Galbeed horta waa maamul keeni taxween waxaan dhihi lahaa madigali mirifle horta maamulka in la iska burburiyo ma ahan in shakhsiyaad maamul loo burburiyana ma ahan laakiin waa in ay ayaga iska qabtaan digali miriflena waxa waaye dad oo ayaga isfiirfiiriyay waaye waxaan dhihi lahaa digali mirifle la'aantoodana ayagoo mid ahayn deegaankaas xabal laga tari maayo marka waxaan dhihi lahaa digali miriflena inay isku duumaan oo dadkan xamar laga soo abaabulay dhamaantooda waa shaqaalayaal dad ay u shaqeeyaan marka annaga ayahayna kama taliyaan digli mirifle ayooda kama taliyaan waxa cunaa waa macna waxaan marka meesha ka shidan tahay raacad way laakiin marka digli mirifle waxaan leeyahay in deegaanada haddii uu yiri hawiye waa u seexseexanaya xasan sheekh maxamuud iyo hawiye ana midida dhabar kaga taagay 3 bilood chance hal isiyo digli mirifle culayska laga yareeyo waxa leedahay taasi waa riyo waa beentiisi
caadi ah taasi waa riyo taasi laga aqbali maayo waayo saddexda bil waxa weeye in uu ku qabsado rabaa koonfur galbeed dhan oo ciidamaha hawiye inuu geeyo rabaa oo raxweynta meesha joogta hadda tusaale oo kaleenta hadda baydhabo kaleenta hadda waxaa la dhahay jackpointiyo iska dhigtay nafar hadli kara ma lahan waa iska gumaadaa baydhabadii naftirkeedu sidaas u galaa marka meel kasta inuu saas u jajoobo rabaa laakiin koonfur galbeedna saas ma noqonayso waayo ninkii ka aragti duwan inuu maamulka u diido go'aansaday maamulka in lala leeyahay ma oga marka waxaan dhihi lahaa horta laftigareed meesha in laga qaado digil iyo mirifle dad aayahooda ka taliya ama odayaalna waa leenaho culimana waa leenahay ma aqaan caamo iyo culimo wax walbana waa leenaho in ay digil iyo mirifle horta gogol wada fadhiistaan oo dhahaan 4 sano ninkaa ha ku fadhiya 4 sano ninkaa ha ku fadhiya mis doorasho ayaga ay qabsadaan horta ayagaaba is ogoleenba ayagaaba isku qanacsaneenba in la geysta la ogol yihiin dhammaantood in hawiye u shaqeeyaan oo dabafuul noqdaan la jecel yihiin marka waxaan dhihi lahaa digil iyo mirifle haldoorkoodii iyo ganacsatadoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo dhammaan inay tashtaan ay soo saaraan ay dhahaan maantadaan annaga iyo maamulkaan leh annaga inaan leenaha aan dareensiino maamulka annaga aan dooranna 4 sano ninka haddoo haya 4 sano kadib ha ka dego nin kale hala keensado laakiin annaga waxaan sugnaa ilaa qof muqdisho laga keena waay marka waxaa leedahay miyaa lafta gareen isagoo hawiye hoosta kaga jira 3 bilood hala isiiyo marka uu leeyahay warkii annagu aan sheegaynaa soo baxay ee ah in uu hawiye macnii ay u direen hubka in laga dhigo digil iyo mirifle marka qabsashadii 3 bilood nooga dhimanay fursadna si aan idin qabsanay sidaasaa loo fasiri karaa miya sidaasaa loo fasirin karaa waayo in uu kusoo dhex milmo rabaa si ay hadda hawiyahan oo haddataan oo heshiiska la galay wuxuu rabaa si oo baydhabo ama koonfur galbeed lugta uu soo geliyo rabaa markaas kadib nafar hadli kara ma laha inuu iska soo jaro markaas isaga meesha lagu dhaxaayo uu damacsan yahay marka macnihii sinna looma aamini karo marka isagoo hawiye hoosta kaga jira 3 bilood chance siiya sinna looma aamini kara hal mid lagu aamini karaa halka mid oo lagu aamini karana waxa weeye in oo ictiraamkii calaaqaadka u jara gobolka banaadir ama sida dowladda federaalka oo kaleenta calaaqaadka markuu u jaro sida puntland noqdo dani oo kale noqdo markaas waa ku daba feeli karna laakiin si kale lagu daba feeli maayo ilaa 3 bilna la sugi maayo haddii uu sidaas uu samayn karan waa lagu daba feelaa hadduusan samayn karin ani waxaan lahaa koonfur galbeed way baaxadweyntaho dadka macnaa way cuqdadeysnaayeen laakiin ha cuqdadeysnaadaan ninkan waxaan dhihi jiray koonfur galbeed horta way weyntaho almiina koonfur galbeed naftirkeeda ha ilaaliyo waardiye ha noqdo baydhabadeeda iska fadhiyo laakiin hadduuba marba hawiye dabada usoo galay xaban oo noo haayo ma lahana baydhabada naftirkeedana waa laga kicinaa marka nin kala keensanayna nin annaga dan waxaa noogu jirta koonfur galbeed nin gadanaya dan nooguma jirto koonfur galbeed nin isku haynaayo koonfur galbeed noo haynaayo ilaahow reerkiisaba ha ku wada taxay baydhababa ha fadhiya meeshoo doona ha fadhiya hal degmaba ha fadhiisto hal tuula ha fadhiistee nin noo wada haynayo maamulkaas hadduu jiro ninkaasa u dhiibanayna laakiin nin marba haddooba dabafuul noqda kaas haba u dhiiban mayno meelna noo fadhiisa maayo marka ma arkayse hawiye anaa u dhammaynaya 3 bilood chance siiya isagoo hawiye hoosta kaga jira digil iyo miriflow fursadaas iyo ogolaada adigu macnihi ma aaminsan tahay lafta gareen isagoo jikada hawiye ku jira inuu hawiye u dhammayn karo 3 bilood haddii chance la siiyo ma kula tahay maya ilama ahan in uu u dhammayn karo ilama ahan in asaga loo dhammayn kara ila tahay oo waayo ay say rabaan u gali karaan oo hadday rabaan ay sumayn karaan hadday rabaan ay sixran karaan oo hadday rabaan wax kale ay ku samaysan karaan oo iska haysan karaan ninkaan wuxuu dhahan haye iska dhahaan sidaas oo kale inay ku samaystaan ay rabaan marka laga aqbali maayo mana ka yeelayno 3 bil iska dhaafay 5 hal maalin hataa uma ogolinba inuu la joogo xataa hadduusan haddaba kasoo noqon waxaan dhihi lahaa koonfur galbeed aayaheeda dadka jooga ha ka tashtaan koonfur galbeed shaksiyaadna ma lahan koonfur galbeed inay dad wada leeyihiin hala dareensiiyo dadka ha kacaano askarta ha kacaano askarta waayo shaksiyaad iska maamulan kara askarta waxaa loo dhisay waxaa waaye wadanimada deegaankooda inay difaacdaan aayahooda inay ka tashtaan hooyooyinkoodii waayeeladii caruurtii maatadii inay difaacaan loogu tirgalay marka waxaan dhihi lahaa lafta gareen iyo taliyashub iyo wixii wixii hoos imaaday iyo aadamadoobaha halismeel haliska saaro waayo dad hadda soo baxaa jira dhalinyaraa jirta dhalinyarta waxay fahamsan yihiin askarta bilaash looma wada qoro nin kasta deegaankiisa isbaaro taal nin kasta deegaankiisa duruufta ku haydo askarnimo u qoranaya marka amarkiyaa laga haystaa lema og dadkan way dhiiran yihin wayna caaboon yihiin maanta dii la deegaankiina la xureynaya xitaa dadka way kacsan yihiin laakiin dadka xukumayo amarka bixinaya dadkaasaa ku dhegan dadka in dadkaasna laga fujiyo dadkaan amar lagu siiyo su-aal kale haddaan ku weydiiyo sababta ciidamada mushaarka looga gooyey shub iyo lafta gareen ay mushaarka uga gooyeen maxaad ku fasiri kartaa
يعني ciidanka in la burburiyo oo hawiye gacanta loo geliyo miya digli mirfle masaasa loo fasiri karaa ilaan lacagtii daaray ku dhisanayaan xamar istanbul meel walba ankara kenya masaaj buu u aadaa taliyo shub diyaarad intuu qaato labadii toddobaad mar turkiya ayuu kusoo masaajaystaa wiilka uu dhalay oo agaasimaha laga dhigay madaxtooyada baydhabo jooga isagana turkiya masaajo u aadaa madaxtooyada qofkii uu soo galay xiblaayo soo daabuu leeyahay ku la tumanayo tan kale yacni macnihi ciidankan sababta lacagta looga gooyay maxay tahay bilooyin macnihi already waxaa loo diyaar gareynayaa miya in la burburiyo oo dhulkan la qabsado hawiye gacanta loo geliyo aad iyo aad marka ciidankaas hadda horta mishaar lagama jaran waxaa mishaar laga jartaana waa la socday waana ka warhayay ciidanka waxaa laga jartay markay ay xureynayeen yaaqbir weyne markay xureynayeen oo ilaa iyo aagaan balidogle ilaa yaaqbir weyne ilaa iyo walaweyn markay xureynayeen isbaarooyinka ay ka qaadayeen isbaarooyinka maalinkay qaadeen maalin ku xigtaba in mana bixi karaan dadkan diyaaradiin waa loo diiday marka mishaarkiina waa laga jartay markaasaa laga jartay dadkan markaasay gadoodsanayeen haba ahaataba laakiin dadkan ninkan wuxuu damacsanaa marka in hadda dadka hawiyo qandaraas la galay oo hadda hataa afgooyadan canshuurta laga qaada boqolkiiba markii laga qaado 30 milyan markii la qaado 15 milyan waxaa la dhahay waxaa iska leh gobolka banaadir iska leh munishiibiyada gobolka banaadir iyo waxaas iska leh qaybna waxaa iska leh marka lafta gareed marka sidaasaa loo kala xiray marka qaybna xagga waa kala barteen marka heshiis ay ku gaareen hadda waa aragtaa macluumaadii oo tagay afgooy waa aragtaa oo tagay ilaa ceelasha biyaha ilaa siinka dheer waa aragtaa oo kormeerku tagay markasta tagay yabo waa aragtaa meel kasto tagay marka heshiis uu la galay ninkan marka waxaa laga rabaa isaga inuu cadaysto sida oo madaxaana furan oo kale madaxaana furan uu cadaysto wixiisa ninkaasna waxaa waaye meeshay ka shidantahoo jira madaxaana furan waxaa waaye dadkiisa dadkaasoo toos u waay ugu dambayntii haddii aad nala joogtid walaalkaa isaga ah waa ka xunnahay ma arkaysa macnihii qadka ayaa ka cuslaaday si fiican buu u dhigay ra'yigiisii waanu soo dhawaynaynaa biidni illaahi baari dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahaw stuudiyaha s m c ayaan joognaa dad kala duwan ayaa saf ku jira dhammaantood sida ay u kala horeeyaan ayaan fursadda u siin doonaa haddii allah awoodale uu ka raali noqdo jimco wanaagsan hadda qadka waxaan dib u wacnay walaal ina soo wacay ayaan ku celinay asalaamu ullaahi calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu salaamay haddaa soo galay yarkaasaan kusoo gaaray lafta gareen ma wax kasoo cusboonaadeen lafta gareen wuxuu leeyahay dhalinyaro intuu u yeeray culayska la iga qaado 3 bilood jaanis hala siiyo hawiye anaa usoo dhammaynayo marka ma laga aqbalay marka anigu su-aal baan qabaay ma laga yeelay taas ma laga yeelay waa way soo fiirfiiriyeen waxay dhaheen niyow adoo hawiye la jooga hoosta kaga jira annagu ma arkaysa macnihii fursad kuma sii karno barnaamijka iskeen hawiye kasoo hoos bax macnihii caddaysay ku dhaheen ma arkaysa sida deni axmed madoobe oo kale dadkaan wax iskuma darsan karna annaga soomaalinimo besaan isugu imaan karnaa dhulkeenna ay kusoo socdaan run haddaa sheegaysid bannaanka imow isaga wuxuu yidhi markii dambe 2 bilood xataa isiiya fursad anaa usoo dhammaynayo okay anigu waxaan raacsanahay dhalinyaradaas dadkaas ama dhalinyaro ha noqdaan ama odayaal ha noqdaane arrintaas ku yiri taasaan raacsanahay 3 biloodaad sheegtay gelin yaan la siinin maalin dhan 24 hours yaan la siinin because qofka 3 bilood waxa weeye wax ku harayba ma laha hadduu rabo inuu u dhameeyo maxaa keenaya inuu 3 bilood qaato waqtiga intaa la eg inuu u baahdo maxaa keenay ilaa meesha uu rabo inuu xoreeyo ama dadka uu rabo inuu maaragtay u hiiliyo ama maaragtay meel fiican gaarsiiyo waa dadkiise maxay tahay waxa ku kalifaya inuu 3 months u baahdo 24 ka yar buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay intuu soo istaago inuu wixii uu galay qaladku galana qirto markaasna yiraahdo war anigu dadkaygaan la dareenahay dadkaygu meesha ay raacsan yihiin baanan raacsanahay dawladna waana cidna wax kama baryaaye halkaasaan istaagay ilaa la isugu yimaadana halkaasaanba u go'ayo goonidaasaan taagna taasaa laga rabaa laakiin 3 bilood isiyaan waxaan u arkaa sheekadii xasan baa 3 bilood balaankii la soo dejiyay hadda marka xisbiga lagu biiray yaa 3 bilood ku eg oo meelaha dhiman
oo la rabo in la qabsado ayaa 3 bilood go'aankeedii la gaaraya anu marka waxaan raacsanahay dadka dhahaya adeer haddaad run sheegayso oo rabto in jaanis lagu siiyo waxaa rabtaba ahaw waxaa rabtaba dhiso waxaa rabtaba qaado laakiin haddaaba tahay qof maaragta maadaama meesha madax ka tahay qof noo hiilinayo na garab istaagaya waa inuu xiriirka u jaro waa inuu banaanka istaago warkiisa cadaysto dadkiisa la dareen noqdo halkaa istaago because fiiri hadda dani markii waad ogeydeen oo xasan iyo groupkaas wixii uu go'aan la gaaray ama xal la gaaray ama uu la watay ama uu balaan la sameynay laakiin markay runta gaartay oo arintii barakamale ay gaartay go'aankii shacabkiisa iyo dadkiisu raacay xal iyo adeer sacday wuuna sacday halkaas uu istaagay dadkiisu la dareen noqdo shar iyo khayr faa'iidii qasaaro waxay helaan buuna la helaya marka isagana taasaa laga rabaa qasaariyo faa'iido wuxuu rabaa ha hele inuu shacabka la dareen noqdo xiriirka jaro halkaa istaago raali gelin bixiyo iraado anigu awal dhinac baan wuxuu arkay laakiin mar hadda ka hor timaadeen meesha idinku aad ku qanacsan tihiin baan raacaya waxa idinku aad ku qanacsan tihiin baan rabaa halkaasana istaago xiriirkaana u jaro inuu dhaho laakiin inuu wili dhaho si aan inii sii gumeeyo inta harta inii baabi'iyo arrimihii la iisoo dhiibay igu hirgalaan 3 months siiya dad ka yeeshaan waa gunnimo adiga nadiifoy markuu leeyahay lafta gareen 3 bilood hal isiyo culayska la iga yareeyo digil aw miriflow ma arkaysa hawiye iyo xasan anaa midida dhabarka kaga gelinayo oo macnaheedu u dhamaynayo adigu macnaheedu taasi ma aaminsanid miya waxaad aaminsan tahay in hawiye 3 bilood uu gacanta ugu gelinayo digil iyo mirifle fursadaas hadii la siiyo waxa dhabarka mindida uu rabo inuu 3 bilood kaga geliyo waa idinka waa digil iyo mirifle ma aha hawiye ma waa digil iyo mirifle runta isu sheega hadduu rabo inuu idinka aanu rabin dhabarka inuu mindida idinka geliyo ninku deegaan buu leeyahay dad buu xukumaa waxa 3 bilood ku qasbayo weydiiyo su'aasha waa inuu ka jawaabo maxay tahay 3 bilood waxa uu in la siiyo siinaya laakiin inuu go'aan degdeg ah qaato dadkiisa iyo dalkiisina waxay qabaan uu go'aan ka qaato halka istaago oo xiriirka jaro u diiday su'aasha waa in la weydiiyo anigu waxaan aaminsanahay 3 bilood ma waxa mindida uu rabo dhabarka inuu ka geliyo waa idinka wuxuu rabaa inuu isagu fashilmin idinku afashilantaan isaga iyo groupkiisuna ay guuleystaan waana balaan la dhisay waana balaan 3 months kaas ba intii hartay intii horeba oo maaragtay uu hadallada fiican dhahaya ama waxyaabaha aad ay rabaan dadku uu ku qancayay marba process baa la soo xalinay marba waxba la soo xalinay marba waxba la soo xalinay hadda 3 months kaasa xalkii u dhameeyay uu maraya marka mindida dadka uu rabo inuu u dhameeyo laakiin uu beenta ka sheegayo waa digil iyo mirifle anigu marka waxaan leeyahay waa inuu go'aan qaato hadduu rabo in wax xal la siiyo waa inuu xiriirka u jaro waa inuu halkaa istaago hadduu taa diido 3 months iska dhaafe 24 hours siininaan leeyahay midda labaad oon ka digayo waxay tahay in idinka la isku kindiro shalay waxaan dhegaysanayay idaacadaada shaqaan ku jiro waqti ma haynin wiilal xanaaqsan oo leh waa dagaalamayna isaana yeelena waa inta la rabo idinka waxa la rabaa dadkan groupkan cadowga ah dulinimada u bareeray calooshooda kaliya fiiriyay iyo dabadooda iyo iftooda kaliya fiiriyay in aanay saameyn in ku yeelan inaad aqoon-yahanaad leedihiin rag waxaad leedihiin dareensan rag waxaad leedihiin wax garanaya kuwaas iyo idinku intaad midowdaan waddankiinana inta inii dhisan aydanaan iska kii ciil qabay iyo kii shalay isaga wax ka tabanayay ninkaas wuu tegey hadduu tagana gurigiisa iyo shilinku meel dhigta kaliya qaadanayay dalka iyo deegaankii ma tagin qof kale intaad u dhiibataan aad midowdaan laakiin qofka aad u dhiibanaysaan ciilki aad qabteen ama wixii aad isaga uu inuu sameeyaad ka tabanaysaan aad ka wada hadashaan oo ka midowdaan oo idinkoo midaysan aad meel isu raacdaan laakiin aydanaan ku dagaalamin haddaad dagaalantaan waa la idinka raayay sababtoo haddaad dagaalantaan meesha kaliya la rabay waxay inaad burburtaan in dadkii inii midoobana hadhow iyaga nafkooda ilaa deegaanka wax ku leeyihiin dhinaca inay ka qabsadaan waana dawlado waxa weeye wax badan oo idinku aydanaan jaanis u haysan bay jaanis u haystaan marka anigu waxaan ka digayaa reer Mayland in aanay iyaga carada groupkan iyagoo fiirinaya groupkan kaliya wadankii iyo deegaankii ka dhigaya inay dagaalamaan u midoobaan isagana inaad si toos ah oo
cad odayaal dhalinyaro culimo dumar kulli runta ugu sheegtaan dhahdaan adeer 24 kuma siinayno waa inaad halkaa istaagto goonigoostad ku dhawaaqdo ama annaga aad nala dareen noqoto idaacaddana timaado raaligelin bixiso tiraahdo aniga shacabkaygii aan shalay rabay inaan maaragtay bal dhinacaas wuxuu arkay laakiin way diidan haddana halkaas xiriirkana waan jira daasitaa hadduu diido waa inaad sida cajiinta tinta looga siibo isaga siibtaan intuu 3 bilood mindida uu inila rabo aanu inku taagin waa haddaad tala maqlaysaan haddii kale weligiin buu ini maslaxayay ilaa last minute uu maanta jeebka inku riday oo waxaad aragtaan oo dhacaya uu maanta ka dhex taagan yahay ceebtaa dhex taagan yahay marka anigu taasaan arkaa anigu waxaan arkaa nin raba inuu inii dhameeyo laakiin nin raba inuu ini xoreeyo ma aha haddana ha yeelnina ka digtoonaada marbay talo in la gudboontahay shalay taladu waa in seegtay laakiin hadda anigu grupkaasaan raacsana way ciidanka lacagaha laga goynaayo macnaheedu maxaa lagu fasiri karaa iyada oo lafta gareen malaayiin dollar uu haysto koontadiisa ay buuxdo isagu markuu imaanayo koontadiisu ma aysan buuxin waa hantidii qaranka daarahan uu dhisanayo ciidanka sababta mushaarka laga gooyay maxaa lagu fasiri karaa ciidanka mushaharka laga gooyo waxa lagu fasiri karaa ciidanku waa waxa kaliya oo laga cabsado ama waa waxa kaliya oo maaragtay meel lagu qabsado waxa looga gooynayaa waxa ay rabaan inay sameeyaan baa la rabaa waxa la rabaa arrintan ay xalisteen ama gogashan ay fidsadeen inayan duumin bay la rabaa marka waxa looga gooynayo waxay tahay meeshaan inii diro kaliya haddaad qabanaysaan baan mushahar ini siinayna waxa weeye waa hab cunaqabatayna ilaa askarigana duurku ku jira meel ma imaan karo wax tabar ma hayo waxaan kuu diro ma samaynaysaa waay haddaan waxaa kuu diro aadan samaynin adeer adiguna halkaasaad ku jiraysaa mushaharna meelay marka waa meesha aan kugu qabsanayo aad markaasaad waxa aan mushaharka ku siinaa haddaad diiddo soo maaha dee waxa weye waa cabsi gelin waxa weye waxaa la fiirinayaa iyaga nafkoodaa la baaraya because waa laga cabsanaya weli waxa leeyahay amay xogaa wadaniyad ku jirtaa waxaa la fiirinayaa marka sida ay yeelaan hadday marka ogolaadaan oo marka mushaharka laga gooyo ay arkaan markaa inay daciif noqdaan oo ay yiraahdaan okay meesha rabtaan nagu dila laakiin mushaharka iyagina siiya waa intii la rabay meelaha la rabaa lagu qabsanaa haddii laakiin la arko inay ka madax adaygaan ama hub ka dhigaan ama gadoodaan ama meeshii ka baxaan kuwanaa dhimanaya marka ciidanku waxa weeye waa meesha u damaysa inta kale waa lasoo qabsada waa meesha u damaysa oo maxay ahaytoy talada dhexda ku dhifan karta ama guusha iyagii meeshii u damaysa geyn karta ama iyagii banjarin karta marka ciidanku waxa mushaharka looga goynayo waa meesha aan rabo haddaadan qabanayn waxba ma helaysid marka ciidanku waxa waaye waxaa la fiirinayaa inta ay gaarsiisan yihiin ma shacabkay la dareen yihiin oo ciidan iyaga nafkooda wax dareemay miya mise ciidan weli la hagi karo oo wax lagu dili karo waay marka anigu taasaan u arkaa waa mushaharka waxa weeye waxa weeye waa balaan la fiirinayo waay ciidankaa la fiirinaya shacabki waa lasoo ogaaday shacabki waa la qanciyey inayan fogeen waa la arkay in la qancin karo waa la arkay ilaa haddaba waa kaa lala hortaagan yahay 3 months haddana isiiye oo weli lasoo horfarinayo weli laleeyahay wax iga sii dhegeysta welina gorgortankas kusii jiraba meeshii ay adeer shul ama shal ama nadhaaf ama warka cadday ay dhihi lahaayeen weli gorgortankaba ogol marka tanuna waxa weeye waa jitaabada ciidanka hadda meesha keliya oo laga cabsanayo oo la rabo in lasoo ogaado maxay tahay go-aankooda waa ciidanka marka ciidanku labay noqonayaan inay ciidan bisil oo iyaguna gubtay oo dadkoodii la dareen noqdaan oo ay gadoodaan oo markaas iyaga ku jeestaan ama ha ka dareeraan ama ha qabsadaan ama inay noqdaan ciidan shilinkaas $100 oo berrina markii la qabsado la dhahay lacag la'aan ku shaqeey wadanku sagaaba ama dagaal ku jira ama dhaqaale la'aan haysaay kuwaas waa saasaan u arkaa su'aal baan ku weydiinaya waxaan jeclaan lahaa dadka sabuurada ku falaadaya dad baa ma arkaysa idin daawanaya walaalayaal sabuurada u qaybiya dadka falaadka qofku wax soo qoraya soo qoro laakiin falaadka macnihii joojiya waxaan doonayaa nadiif inaan ku weydiiyo lafta gareen sidee lagu aamini karaa oo digli mirfle ay ku aamini karaan sida kaliya hadda lagu aamini karo ninkaas waa inuu intuu meel soo istaago hadda fiiri dadkan hadda wax qorqoray lafta gareen kuwa badan oo amaanaya arkay shalna cayn jiray baa hadda commentiga ku amaana moogta hero waaye geesi waaye waxa kaliya lagu aamini karo waxay tahay inuu halkaas soo istaago oo sababta uu raalgelin ka bixiyo dadkiisana la dareen noqdo dhaho xiriirkan u jaray that's it
wixii aad idinku rabtaan baa anigu rabaa meeshii haddaad dhibsateenna arrintii waan ka baxay waan ka noqday xisbiyow wax kalow go-aanan la gaarayo kulli idinkaan in xiriirkan u jiro haddii taasaa lagu aamini karaa laakiin wax intaa ka sokeeya oo madadaala anigu waxaan leeyahay wax la aamini karo wax lagu aaminana maba marka macnihii isagu uu hadlaayo xaguu ka hadlaya ma isagoo xamar jooga ma isagoo ma arkaysa baydhaba jooga xageeba dadka uu kula hadli karaa ma madaxtooyadiisii mise fagaare sidee ma arkaysa uu hadli doonaa sideena lagu aamini karaa ninkaas marka la rabo in la aamino aba rabtaanba inaad aamintaan ama la rabo inuu dadka kusoo noqdo ama uu weli janis la siiyo hadduu rabo kow waa inuu baydhabo yimaado isagoo xamar jooga isagoo meel kale jooga maa iska daa isagoo madaxtooyadiisa ku jira dadka xataa hadduu odayaal u yeerto oo group u yeerto oo groupkaa la hadla xataa lama aamini karo anigu taana aaminsanahay wa ama igu naca ama iska daaya waa inuu meel yimaadaa baydhabo waa inuu meesha ugu weyn ee ummaddu isugu imaan karto saqiir iyo kabiir inta la isugu yimaado halkaa uu ka khudbaya adduunkana idaacaduhu ku furan yihiin la dhegaystaa sheegaa riisanka sheegaa halkaas go-aanka cad uu ka qaataa halkaasna uu xiriirka ku jira hadduu taa samaynayn intuu ama isagoo xamar jooga hadlo ama intuu baydhabo yimaado guri galo oo afar isaga u yeerto anigu waxaan leeyahay isaga guriga ugu daata iskana saara idinkuna midooba idinkoo aan waxaanu sameeyey saanu ahayd iyo shalay halkan ay ka dhacday iyo reer hebel ba halkan fadhiyay waxaas dhan forget about that waxa dhan intaad iska ilowdaan idinkoo midaysan oo reer Mayland ahaan u midaysan oo iswadataan oo aan kala saarayn oo mid sharci lana iyo mid sadana haysta midna aan fiirinayn laakiin groupkiisi iyo lafta gareen iska saarteen intaad midowdaan ina wax aad ku midaysantiin dhisataan horena u socotaan isaga iyo inta la midkaana aad turtaan laakiin inuu guri in la galo oo intuu baydhabo in yimaado qolkii in ku soo xirto oo halka waxay ku qanciyana hayeelnina inuu xamar in isagoo jooga hadal in sheegana hayeelnina inuu banaanka soo istaago oo ninkaas raali gelin bixiyo oo xiriirka u jaro oo idinka oo shacabkiisa iyo askartiisa iyo dadkiisa dhageysto marka jaanis waa la siinaa ummaduna ay marqaanti ka noqoto inta wixii dhaafsiisan hadaa yeeshaan idinka leewaan way lafta gareen maarkiisa ma soo caban jirin laakiin hadda culays kale iga yaray sababta uu leeyahay maxay tahay ma dhigi isaga maaha hadda dadkii dad jiray awal hadaladiisa dadka waxyar telefoonka awal rajaal nadiif hadda sewa okay awal dee dadka ka dhex hadli jiray hadba waxay rabaan buu sheegi jiray marka intuu meelaha tago soo noqdo magaalada yimaado hadal lagu qanco iidiyaha ka sheegi jiray hadda tii inay dhamaato uu arkay in lagu fahmo arkay midda labaad dee hadda waxa culayska saaray groupkan uu hadda ku biiray fikradoodii waa inuu keeno waa inay sida iyagu u dhaqmaan iyo sida iyagu maaragtay dadka u kala jajabiyaan waa inuu isaguna halkan ka bilaabo marka waxa keenaya waxa weeye barnaamijkiisaas iyo groupka uu ku biiray buu rabaa inuu guuleysto taasaa keenaysa laakiin xariis iyo inuu dadkiisa ka naxaayo iyo inuu dadkiisa iyo dalkiisa rabo inuu wax u qabto iyo ma aha taas ma aha haddaa ka filaysaana waa ku qaldantihiin arka waa xeeladaysi baa laakiin midda aan raba inaan mar kale ku weydiiyo waxaa weeye lafta gareen ma caban jirin aan ku dhahay culayska hadda soo fuulay waa maxay sababta uu leeyahay culayska iga yareeya fursad isiiya muxuu u leeyahay dhalinyarada waxa weeye taas dhalinyarada hadda dadka inay ahayn buu arkay in dhalinyaradii kacday buu arkay in maaragtay aan waxaan uu soo qaaday iyo meeshuu hadda taagan yahay cid yeelaysaa jirin buu arkay marka wuxuu arkay inuu meel aanu filayn baa kusoo baxday dhalinyaro arkaa dad isku xiran buu arkay marka wuxuu arkaa haddii aanu baryootamin in isaga ay u dhamaanayso meeshii uu filayay isagu inuu wax u dhameeyo wuxuu arkaa inay isaga u dhamaanayso marka si ayan isaga loogu dhamaynin buu rabaa weli inuu isagu wax u dhameeyo taas way uu tiri maantiska u codsanaay marka hadda wuxuu arkaa inay gabagabadiisii tahay hadduu xal helin marka xalkii buu ka dhex arkaa inuu calacalo ama baryootamo ama nisasabo taas waay anuu taasaan u arkaa garashadayda way xasan sheekh maxamuud anaa u dhammaynayo markuu leeyahay 3 bilood ha la isiiyo xasan isaguna hawiya xalay u tagay waxay ku yiraahdeen lafta gareen ma aaminaysaa weligay ma aaminayo xildhibaanada soo bixi doona 77 ee baydhabo xataa saameyn kuma yeelan doona ama isagaa dhimanaya hadalkaasi maxaa laga fahmi karaa in adeer taas mashaki baa kaaga jira marka hore taas qofka ay shaki uga jirtay in anigu daraad ma eed marka inta ka hadlayay baan ku sheegay
xasan inuu yan xataa haddii ay uu inii gumeeyo aanu waxba isaga xaggooda u maraynin isaga u dhamaynayo maalin dhoweyd bay ahayd darad bay ahayd markaan sheegay runta waxa weeye sideedaba walaal waa qaraar tahay laakiin ma qarsoonto taas wax qarsoon ma aha qofka ay ka qarsoon tahay ama weli aaminsan haddii wax lagu darsado waxbuu xalinaya de qofaan adduunkaba ku noolayn waay mayd socdo waay taas wax iska cad waay waxna iska daa idinka anagaas baa filaya anigaas ii muuqataa inuu aamino iska dhaafe maalinta uu meesha uu rabaa 3 biloodna hadda isagaa usoo dhiibo yiri 3 bilood meelo usoo cayimaa jira marka ha ka sugin maalinta uu gacanta ku dhigo oo meesha uu rabo uu geeyo isaga iska dhaaf inuu aamino ama xildhibaane idinka dhan iyo deegaanka dhan buuyin waxba ka dhageysanayn marka run buu sheegay labadooda waxa dhacaysan xasan labadooda haddii la qodqodo runta iyo xaqiiqda waxa laga heli karaa xasan waay anu munaafaqad mi xasan baa laga heli karaa xasan baana hadda runta u dhow ninkan weli isaga waxa weeye been loo waaye mana runtana ma sheegayo welina waxbuu rabaa inuu sii dulmo laakiin xasan runtuu sheegaya waxa uu maagan yahay iyo waxa uu rabo iyo waxa kalifa inuu meesha fariisiyo iyo waxa uu intaasoo dadaal u bixinayo taasuu sheegtay xasan baa labadooda daacad u dhow hadduu ereygaa yidhi xasan baana run sheega hadda isaga iyo xasan markay noqoto sewa ma taasaa shaki ku jira way marka lafta gareen muxuu u sheegi doonaa shacabkiisi marka hadda aad is leedahay waa midda la sugayo waa inuu meel fagaaraa ani waxaan leeyahay waa in aan qol lagu dhegaysan waa in mikrofon weyn loo xiro idaacadaho dhan yima xataa youtube